غفيري شافا شغلي هلي وانتو جتايو يوشيرسيو فيها تجابي جعلونا جماعي لا تغفري شفاعة شغلي جدايو يكشرير سيو سيرهاي تشاباي نينا مدايو وشريك سلسلة هنغمبو شاري وشيكاي نينا مدايو وشريك سلسلة هنغمبو شاري وشيكاي كناكو دمبيسو جوهر الأمور Sega no gombo, chabali ushega. Jana imudam baisu, choara lamur diba. Sega no gombo, chabali ushega. أهلا وسهلا سودو هذا وده فربان وقدقي برنامج محمد سليمان طبيع رحيم الله
soo dhawaada asxaabta qaaliga meel kastoo aad joogtaanba waxaan idin leeyahay inta ay habeen u tahay habeen wanaagsan, inta ay maalin u tahayna waxaan leeyahay maalin wanaagsan. meel kastoo aad daafaha dunida ka joogtaanba aad iyo aad baan idiin salaamaya. hagaag wixii caytamaya iyo wixii kaleba anigu markasta waa soo dhaweeya. soo dhawaada baan idin leeyahay. soo dhawaada. mawduucaygu waxa uu yahay iyo topiga aan ka hadlayaba ciwaankiisa waad arkaysaan baan filayaa. waxa weeyaan sidee dhibta looga bixi karaa, dhibta jirta sidee looga bixi karaa, sidee looga bixi karaa dhibaatada jirta maanta. ciddii aan soo qaban karo khadku ii saamaxo. kolley waxaa laga yaabaa hadda connectionku malaha ma fiicno, waa cilad facebook soo kordhiyo, waxba lama soo qaban karayba. laakiin waan isku dayayaa kolba ciddii farta soo taagatay in aan soo qaban doono si ay barnaamijka igala qeyb qaataan. waan ku casuumi doonaa. soo dhawaada. soo dhawaada asxaabta qaaliga ah meel kastoo aad joogtaan aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. soo dhawaada. videogana ha la sheer gareeyo. mawduucaan ka hadlayaa waxa uu yahay sidee baa looga bixi karaa dhibaatada jirta, sidee looga bixi karaa dhibka jira. haddaba maya raaxo soo dhawow. wax dhibaatay hadda ma jiraan. ciddii caytamaysa iyaday u taallaa. kolley qof horta cidda caytantaan idiin sheegayaa. waxaan idinka siinayaa wax yar oo warbixina, information yar oo gaaban baan idinka siinaya dadka caytama. barnaamijkana ha la sheergareeyo. video sheerka yaan la ilaawin, videogaas si sheergareeya dhammaantiin. dadka caytama waxa weeye horta waa qof markii uu yaraa ama marka aragtida toosan horta lagu eegayo qofka caytama waxa weeyaan qof aan tarbiyad wanaagsan kala soo bixin gurigoogii. marka horeba tarbiyad wanaagsan waxaa laga yaabaa inaan gurigoogaba tarbiyad fiican laga bixin jirin, oo family tarbiyad fiican bixinaya inaanay ahayn baa laga yaabaa familiga uu ka dhashay ama uu kusoo dhex koray. sidaa darteed qofku wuxuu noqonayaa bilaa akhlaaq. nolosha suuquu la qabsaday markuu yaraa. noloshii suuqa ee uu soo bilaabay ayuu kusoo weynaaday. bacdeen inuu caytamo waa arrin uu kala yimid xagga guriga, tarbiyada guriga. marka qofka caytamo waxaan idin leeyahay yaan lala ficiltamin. waa qof u baahan in wax loo sheego oo loo caqli celiyo. haddii imika uu qofku caayo oo dabadeetana adiguna aad cay ugu jawaabto, adigayo qofkaasi dee waxba isma dheeridin, isku dembi un baad noqonaysaan. dabcan isku dembi un baad noqonaysaan adiga haddii imika uu qofku caayo oo dabadeeta adna aad ka rogato. dee maxaad adiguna dhaantaa markaa? wax halaale iyo waxaad dhaantaa ma jirto. waa laba qof oo iscaayay un baa tihiin. waxaan filayaa haddii caqli toosan lagu eegana inaad isku dembi un tihiin oo wax halaale iyo waxaad isdheertiin aanay jirin. laakiin waxa ka qurux badan adigoo ka dhaqaaqaba, adoo ka dhaqaaqaba qofkii ku caayay oo iskagaba dulqaata. dee maxaabad ka caytamaysaaba? miyaad dilaysaa qofka? haddaad ku dhagarowdana dee waxaad ka fogaanaysaa ilaahay. waxba aakhiriya adduunna dee markaa waxba meelna kuma lihid haddii aad ku dhagarowda macnaha qofku dilay. dhagartana kolley de diin allaaliya diin aqbalaysa in qof aad disho ama aad dhagarowdaana horta ma jirto. diin aqbalaysaa haba yaraatee ma jirto. diinta muslimka, diinta kristanka, diinta boodistiga, diinta yuhuudda ayu diin adduunka ka jira oo aqbalaysa inaad qof bila-aadana aad disho ma jirto. haddii uu qofku ku caayo dee laguma odhan dil. weyga ugu fiican ee kuu banaano waxa weeyaan inaad ka dhaqaaqdo, inaadan laba sii tirsanin qofkaasi caytamaya oo aad ka dhaqaaqdaa ka qurux badan. inaad ka dhaqaaqdaa ka qurux badan. soo dhow farxiya, aad baan kuu salaamayaa. raaxa waan kusoo qaban doonaa, bal hadda waa isku dayaa inaan kusoo qabto. waa kusoo qabanayaa. uu dhacayaa raaxay qabo. raaxa uu dhacayaa qabo.
raaxay telefonkaaga suu dhacayaa qaban maysid jaanis kalaan qof kalaan siin doonaa jaaniska adigana mar labaad baan kugu soo celin doonaa waxaan u malaynayaa hadda telefonkaagu waa dhacayaa qaban maysid okay calaykum assalaam soo dhow layla cali soo dhow waayahay barnaamijkan kusii socon doonaa ciddii kale ee farta soo taagatana waan soo qaban doonaa si ay igala qeyb qaadatay barnaamijka hagaag horta waxa weeyaan barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay sidee dhibaatada jirta looga bixi karaa dhibaatadan jirta ee hadda taagan sidee looga bixi karaa horta waxa weeyaan ilaahay awood buu ina siiyey laakiin waxaa laga yaabaa awooddaasi inaynaan arkayn oo aanay inooba muuqaninba baaqa anigu markasta waxaan u dirayaa dadkayga gabooyaha ah baan la hadlayaa anigoo aan cid kalena ataagayn barnaamijkayguna uu ka madax bannaan yahay mar kasta inaan anigu cid weeraro waa ay ka madax bannaan tahay arrintaas hagaag dadka su-aal baa laysoo weydiiyey xabiibo cusmaan weli way xidhan yihiin dadkii anigu barnaamijka aan ka hadlayaa waxa weeyaan okay qof kalaan bal janiska hadda siinayaa fadlan ciwaanka barnaamijka aan ku soo galay bal hadda hal aqriyo soo dhowow isma maasha allah waa ku salaamay maama waa ku salaamay waan kaa qaaday maasha allah tabaaraka allah horta allah ku barakeeyo dhammaanteena allah ina barakeeyo runtaa wayaan waxa fiican inaynu gacan wax iskaga celin nimaa shantu kaa reebin horta sharci kaama reebo innagu wax badan baynu gaabsanaynay oonu lahayn colaadiisa iska dhaafa laakiin tan hadda dhacday haddaynan weligeen ka dhiidhiyin waxay rabaan inay ina hor joogsadaan oo wax geesinimadeenna iyo dadnimadeenna hor joogsada ay inagu sameeyeen inta lagu arkay laba raaciyadood oo istagaashay oo weliba raaciyad ahaan laga gardaran yahay dowladdu intay u garqaadi lahayd in ay kuwii laga gardarnaa weliba xirxirto lama arkin adduunkana kama dhacdo marka dadkaas horta dowladnimo ma jirto meeshaas madaxdaasina way ku ceeboobeen dadkeena maanta aad bay ugu ceeboobeen wax kaloon odhan karna ma lahan laakiin waa inaynu halkaa ka wadnaa oo markay gacan inoo soo taagaanba shantaan u taagayna inta hal inaga hadhaayo aniga saasaan qaba waa xishoonnay waa ka dhaqaaqnay wayna caayaan annagaa ka wada magacyaa fiican uta marka loo wado habraa wada dhalay xaggee wiilal ka leeyihiin nin aabba ku abtirsanaya miyaad aragtay ninna aabba kuma abtirsado mid walba waa habar hebel kulligeen aabba ina wada dhalay reer bucur bacayr weeyaan iyagu bucur bacayr baa wada dhalay furuuqteennii weeyaan waa iska daynay laakiin hadda haddii ay dowladdiina saa ugu darsantay shanta iskaga celinayna sidaasaan yeelaynaa haddii alla yidhaahdo marka idinku soo xadgudbay ma jirto hadda wixii ka dambeeyay deegaan runa dhulkana iyaga inoogu yimid maray yidhaahdaan bad baanu ka nimid iyo maray yidhahdaan cirkaanu ka soo dhacnay annagu dadkii dhulka lahaa baanu nahay asal fasal wayna og yihiin soomaaliya gebi ahaanteedna meel aynan ku noolayn ma jirto hala kaco inta dibadda joogtay inta dalka joogta kulligiin waxaan idinku dhiirigelinayaa inaynu iska celino wax alle wixii nagu soo xadgudbay ilaahay wuxuu ku yidhi wixii kugu soo xadgudbay iska celi waa iska celinaynaa saasaan qabaa aniga wasalaamu calaykum horta waa sax weeyaan waxa weeyaan horta dhib baa jira hadda dhibaato aad iyo aad u ballaaran baa jirta tacadiyo fara badan baa dadkeena loo geystaa waan ogahay haddana su-aasha meesha taallaa waxay tahay sidee looga bixi karaa haddaba dhibaatada tan ileen maanta haddii aan dagaal abaabulno ama dagaal la iclaamiyo may maqlaysaa okay maamada way ka baxay aad iyo aad bay u mahadsan tahay waxa weeyaan horta haddii maanta aan dagaal abaabulno ama aan rabsho inaanu kicino aanu isku dayno horta waxaa jirta dhibaato aad u fara badan baa jirta haddii aynu maanta damacno inaynu dagaalanno dhibaato aad u fara badan baa jirta qofka jabhad samayn kara ama dagaalami karaa horta wa-ayo waa in uu qofku horta marka hore yeeshaa isagu saldhig haddaynaan lahayn maxaynu ku dagaalami karnaa maanta dad badan oo waxaan arkayay fikirro badan kasoo dhiibanaya oo leh waxaad u baahan tihiin community meel kasta inaad community kaba samaysaan bacdeen
waa in magaalo kasta iyo gobol kasta iyo degmo kasta inta qurbaha joogta ay community samayso taasi kolley imikaba way jirtaa taasi laakiin waxa kasii muhiimsan community kasta in ay isku xidhmaan meel kasta oo ay jahliyadi ka jirto waa inay dadku isku xidhmaan beesha gabooye waa inay isku xidhantaa marka isku xidhkaa la helo markaynu isku xidh helno wax badan baa furfurmaya dad baa ka dhiibanayay fikirro badan maalin dhaweyd oo lahaa waxay u baahan yihiin beesha gabooye inay odayaal dirsadaan inay odayaashu hor kacaan inay odayaashu isbeddel keenaan war waa fikirkaasi kolley anigu ma aqbalin odhan maayo waa fikir qaldan waayo inaad qofka bini'aadankaa tirahda fikirkaagu uu qaldan yahay maaha ka dhegayso hadduu ku anfaco qaado haddaanu ku anficinna dee ka tag waa inaad ka tagtaa un hadduuna ku anficin inaad tirahdo waa qalad qof bini'aadana fikirkiisa anigu waa kasoo horjeeda waana laga fiican yahay midda ilbaxnimona ma aha waxa weeyaan horta marka hore inaad qofka bini'aadankaa wixii uu ku hadlay inaad dhegaysato bacdeen fikirkaasi hadduu ku anfaco ama uu sax yahay qaado haddaanu ku anficinna dee ka tag ila cidi kugu qasbi maysa qofkii ka dhegayso uun fikirkiisa fikirka hadda dad badan ay soo jeediyeen oo soomaaliya waxay leeyihiin odayaal samaysta ha idin hor kacaan isbeddelna odayaal baa keena bay dadku aaminsan yihiin may anigu middaasi ma aaminsanin isbeddel adduu jiilka cusub baa keena dhallinyaradaa keenta ragga isbeddelka keeni karaa waa innaga oday kursi sida loogu fadhiisto buu khabiir ku yahay hadda soomaaliya wax laala iyo waxa u taliya meel kasta ka eeg dhinac kasta soomaalida ka eeg waa odayaal wax allaale iyo wax isbeddelay keeneen miyaad aragtaan muddo 30 sannadooda bay soomaalidu dagaalamaysaa iyo qori isku haysataa oday hadduu wax keenayo ama uu faa'iido keenayo miyuu soomaaliyaba dee u keeno ila soomaaliya ku hogaaminayaaba waa odayaale waa odayaal 70 iyo wax kor u dhaafay uun 70 jir iyo wax 80 kusii dhow weeyaan oo maskaxdooduba aanay taam ahayn de fresh maaha 80 jir maskaxdiisuba fresh maaha haddaanu marka horeba nin dhiig cabayo oo balaayo iyo ku jira dagaal maskaxdiisu taamba noqon mayso waxaad ku taamilo qaadataan hadday odayaal wax beddelayaan dadka fikirka qaba odayaal baa wax beddela ama odayaal samaysta idin horkaca waxaad ku taamilo qaadataa soomaaliya ayaa u taliya ma dhallinyaro mise waxaan anigu aaminsanahay maxaydiin ahaan haddii ay soomaaliya maanta dhallinyar gacanta loo geliyo xukunka inay hagaagi lahayd baan aaminsanahay haddii soomaaliya maanta xukunka dhallinyaro gacanta loo gelin lahaa inay hagaagi lahayd baan anigu aaminsanahay oday wuxuu kharibo mooyaane wuxuu hagaajiyo horta male taana hana lagu yaan la inagula talin yaynaan qaadan fikirada qaldan kuwa wanaagsan inaan qaadan gabooyo fikirada wanaagsan ee caqliga fiican ogol yahay aynu qaadano ayaynaan qaadan fikir kasta oo xun qof kastaaba fikirkiisa uu ka hadli karaa bacdeen soo dhaweeye fikirada dadka ixtiraama markaad ka dhegaysato hadduu ku anfacana qaado haddaanu ku anficinna halkaasun ku dhaaf inaad ka dhegaysataa dhibaato kuu keeni mayso inaad ka dhegaysataa dhibaato kuu keeni mayso qofka bini'aadankaa fikirka uu kuu wado iyo waxa uu soo bandhigayaba haddana su-aasha beesha taallaa waxa ay tahay dhibaatadan jirta maanta sidaynu uga bixi karnaa dhibaatada jirta sidaynu uga bixi karnaa ma inaynu arrinta social mediaha oo keliya u daynaa social mediaha aynu ka hadalno oo keliya inaynu qadiyadda ku daynaa waxay ila tahay inaanay taasi xal badan inaanay keenayn waa in movementi kale aan samaynaa bulshadeenna waa inaan isku xidhnaa meel kasta waa inaynu jahliyad ka samaynaa waa fikir fiican hortaasi waa soo dhaweynayaa sax hal mid baan idinka cudur daaranayaa gabooyahana mid baan u sheegayaa waxaan horta idin leehay iminka matalan ilmaha aad dhasho qof kasta oo ka weyn uu ixtiraamayaa soo maha hadduu qof kastaa ku idhaahdo aniguna hooyadii baan ahay ma aabihii baan ahay ka war ma ka aqbalaysaa oo macnaha ilmahan dee waan kula dhalay gabooye waxayba noqdeenba waxaynu noqonnay dad la sheegtaba oo qaar baa inale gabooye waa dir gabooye waa daarood gabooye waa isaaq gabooye waa sidan waa kan innagii baa noqonnayba dad laysku haysta iminka waxaynu noqonnay dad laysku haysto oo qabiil walba uu iska sheeganayo haddana uu dhinaciisa ka xumayn inuu ka gubayo qabiil kastaana dhinaciisuu dabka kaaga hayaayo hadda la soco hamoodin inuu kuu nasteexaynayo anigu run baan idiin sheegayaa
inuu kuu nasteexaynayo qabiilkan kale horta hamoodin. iminka marka aynu somaliland ka cabanno qaar kalea ku odhanaya waar kuwaasi waa sidan waa kan waa laguu caayaya. meesha aynu u dhalannay baynu horta u dhalannay, taa iyada shaki kama jiro. waxay leeyihiin kuwaasi way xun yihiine ka soo guura. puntland haddii aad eegto oo ay macnaha cidi isku dhacdo, qolo kalea waxay ku odhanaysaa war kuwaasi way xun yihiine ka soo guur. qolo kastaba iyadaa iscaayaysa, iyadaan soomaali horta naf badan bay isku haynin. adigana waxaa la rabaa in lagu sheegto oo lagu idhahdo annagaad naga tirsanta. waxay commentiga dadka ma akhriyay, hadalkaygan sii wadanayaa. waxa weeyaan horta ayaan lagu sheeganin. adiguna ha aqbalin afgobaadsiga. 10 jeer baynu ka hadalnay mawduucyada noocaasa. inaynu mar walba isku sheegno horta maaha. waa laga qurux badan yahay inaynu mar walba wax uun ku soo celcelino. laakiin inkastoo caqliga bini'aadanku wixii loogu celceliyo ay automatic ugu safe garaysmaan. wixii lagu celceliyaa automatic bay ugu safe garaysmaan caqliga bini'aadanka sideeda banaanba. haddaynu maanta oo dhan uun ku celcelinno waar afgobaadsiga diida dee 10 jeer baynu ka hadalnay arrimaha noocaasa. waxa aan kuu sheegayaa waraabaha xayawaankan ugaadha la yidhaahdo, xayawaanka ugaadha la yidhahda bal hadda eeg. waa xayawaan fikiraya wey oo caqli leh. meeshii iminka matala hadduu maanta meel maro oo meesha ama libaax ama waraaba ku galo uu yaqaanaa. halkii shalay toolo khatartu kula kulantay iyo dhibaatada uu yaqaanaa. beri toolama marayo, wallay ka tahay inuu maro. inuu maro lagama yaabo. xayawaankiibaa taa garan leh, inagoo bilaadan siinuu garan weynay. meesha ay dhibaatadu inaga soo gaadhay inaynu ka leexano soo maaha. waar waddo kasta oo adag waxaan idin leeyahay, haddii ay maanta matalan waddo haddaad marto oo waddadaasi ay kugu adkaato, ma inaad isdhiibtaabaa? seed isku dhiibaysaa dee? isku day kale miyaanu jirin? caqligu ha shaqeeyo. sow isku day kale ma jiro? waa inaad isku daydaa haddana mar labaad ku celi. nolosha sideedaaba iska wada dhibaato ah. noloshoo dhan waxa ku xeeran dhibaato kasta oo nolosha kaa qabsata inaad adigu ka gudubtod xalkay keentaa la rabaa. inaad laakiin isdhiibto oo aad tiraahdo malaha waxa ii fiican qabiilkaa kale inaan la dego, ama waxa ii fiican inaan ree hebelkaa kale u tego. maaha. adigu noloshaada iyo mustaqbalka dambe awlaadda haddaad adigu dhibaato la kulantay oo aad naftaadii khaatiyaan u taagan tahay, ilmahaagu yaanu la kulmin dee. bal ilmahaaga uun badbaadi. adigu haddaad taadii xal u weyday iyo maaro oo uu waqtigu kuu saamixi waayey, waxa aad isku daydaa inaad xalkeeda raadiso. ilmahaagu sidii ay ugu noolaan lahaayeen nolosha aad ku nooshahay mid ka duwan oo ka heer sarraysa. anigu hadda noloshii aabbahay ku noolaa dee ma raajicina inaan ku noolaado. tu ka heer sarrayso oo ka fiican baan rabaa inaan ku noolaado. noloshii awowgay ku noolaa ma rabo, tu ka fiican oo ka sarraysaan rabaa. miyaanay ahayn inaynu raadinno nolosha nolol ka fiican? dhibaatadan si aynu uga baxno inaynu xal raadinno maan ahayn? inaynu dadkeenna isu keenno oo aynu isku xidhno miyaanay ahayn? miyaanu taasi caqliga ogolayn? ciddii barnaamijka igala qayb qaadanaysa waan soo dhaweynayaa. waa aan idin soo qaban doonaa. haddaba muhiimadda jirto qof baa qoraal fiican soo qoray. aad iyo aad baan uga mahad celinayaa. waa topiga aan ka hadlayo khuseeyaa arrinkaasi. axmed soomaali bulxan, aad baan kaaga mahad celinayaa. marka aad leedihiin dhulkaan ka guuraynaa, dhulka sideed uga guurtaan? isaga ma magaciisaa ku qoran? ma shaabad baa ugu taalla? mise caddayn buu u haystaa inuu dhulkan isagu leeyahay? inaad adiguba ugu dhowdaha macquule. axmedow aad iyo aad baan kaagaga mahad celinaya. adiga fikirkaaga fiican ee aad ku soo qortay aad baan kaaga mahad celinaya. haddaba dhulka marka aad leedahay waanu ka guuraynaa, dee halkee degi? haddaba ma cirkaa degi?
dhulkii ka guurtayay xaggee degaysaa qabiil kalaa kuu baaqay oo kugu yidhi annaga nala soo deg kuwaasi way xun yihiin ma intaad dhulkaagii ka guurto baad meel kala degaysaa kuwaasina har ku siixin maayaan wallay ka tahay inaanay har ku siixinayn kuwaasina saa tan uga cabanaysuun bad berri toolana kuwaas uga soo caban doontaa cabasho fara badanna waxba inaanay tarayn baan idiin sheegayaa tirada faraha badan lena waxba ma sheegto macnaha markasta waxaa la idinku niyad jabiyaa oo qalbiga laynagaga dilaa in laynaga tiro badan yahay cid inaga tiro badani ma jirto laakiin waynu kala tafaraaruqsannahay markaynu runta isku sheegno tafaraaruq fara badan baa jira tafaraaruqaasi sidaynu haddaba u baabiinaa sidaynse inagu u midownaa saynu u midownaa saynu dadkeenna u midayn lahayn ee aynu isugu keeni lahayn baa mushkila taasaa malaha shaqo badan inooga baahan middaasaa shaqo badan inooga baahan oo la rabaa inaynu horta dadkeennii midayno dadkeennii inaan isku xidhno waayahay waan soo qabanayaa qofkii raba inuu igala qayb qaato sorry raallihaada waayahay war ciddii caytamaysanayo iyaday u taalla aniga shaqadayda ma aha aniga barnaamijyadayda caydu way ka madax bannaan tahay horaan idinku sheegay aniga af caytamaana iguma yaallo hooyada iyo aabbahay baa akhlaaq fiican aniga igu soo barbaariyey inaan dadka caayana anigu waan ka faanaa carabkani ma caytamaadeer caytami maayo weliga yaallahay hallay caaya aniga ciddii islaanta yar ee caytamaysa ee intay kursi kusoo fadhiisato soo caytamaysaa dee iyaday u taalla aniga shaqadayda maaha islaan yaroo intay kursi soo qaadato soo caytamaysaa shaqadayda maaha adeer ha soo caytamaan islaamahan qaryadadu waxay doonaba ha sheegaan shaqadayda maaha aniga taasi maxediin baa la idhahdaa mana caytama adeer asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowow guddoomiye soo dhowow walaal aad baan kuu salaamayaa caydaruusow caydaruus leedhahay maxediin baa la idhahdaa oo maxiyadiin sorry magacaan caydaruusow aad baan kuu salaamayaa runtii kolley waxaan joogaa hargeysa ayaan kala hadlayaa iminka soo dhowow guddoomiye markaa kolley dee iska nimcaa dhacdo kolley roobna waa iska daadaaya caawa alxamdulilah in badan baan kolley mawduuca ayaan halkan kala socday groupka aad iyo aad liveka iyo aad iyo aad u badan runtiina iyo waxa iska jira had iyo jeer way maqlaysaa si fiican adigu dhowrkii wiiga u dambeeyena kolley waxa in badan ka hadlayseen hawshan ka dhacday burco iyo hawlahaas iyo waxaasoo challenges caaw mawduucan wuxuu ku saabsan yahay sidii looga bixi lahaa waan gartay kolley saan ka akhristay marka aniga horta hal ra'yi baan kolley anigu aan qabaa oo runtii kolley ka duwan ra'yiyada kale waxa weeyaan runtii anigu ma ihi kolley hadda beesha hadda aad sheegayso macnaha gabooye laakiin dee dadka aanu deegaan wadaaganahay burca iyo hargeysa iyo daami intaba kolley jaar baan la ahayo dee xog badan runtii waan ka hayaa dad badan oo wanaagsan oo muxtarim ah oo runtii akhlaaq iyo diin iyo dhaqan intaba leba runtii waan garanayaa saaxiibna waan la ahay anigaygan kula hadlayaa runtii dadkaas waxaanu ku kala duwannahay runtii haddaanu maanta halkaa wada marno ama aanu meel wada qabanno dee waxna lagu kala saarayo ama waxna lagu kala garanayo la odhanayo kambaa gabooye ah kambaa walba isaaqa kambaa sidana runtii dee ma jirto aad iyo aad oo waa dadkaa isku dhaqanka isku diinta isku de ilaahay isku meel wada dejiyey weeyaan si fiican waxana runtii kolley waxa weeyaan in qof bini-aadan kaloo lamida oo runtii uu yaso ama uu yaraysto runtii dee dhaqan diinta islaamka iyo dhaqanka iyo intaba ku wanaagsan maaha horta su-aal baan ku weydiinayaa iyo walaal dadka caytama horta anigu waxaan u arkaa un inay yihiin dad aan hooyadood iyo aabahood ama gurigoogii aan tarbiya fiican kala soo bixin sax aad iyo aad inta badan horta mid baa jirto dadkaygu waa la caayaa si xun baa loola dhaqmaa marka xaqiiqada laga hadlo sax waxaa laga yaabaa in anagu dalka mid baan kuu sheegayaa magacaagii imaad sheegin horta inaad ii sheegtaan jeclahay ya
yaxya walaal yaxya aan jeclahay yaxya walaal yaxya Salmaan Raage yaxya yaxya saleebaan raage fikirkaynu isweydaarsanayna hadda labadeenu aad iyo aad waxaa dhacday hadda ka hor tusaale yar baan ku siinaya waayo dadku tusaalayaashay isku fahmaan tusaaluhu waa waxa ugu badan ee bini aadamku wax ku fahmo صح soo hargeysa ma joogtid ha hargeysaan joogaa waayahay wejigaagana hadda wada tustay aad baan kuu salaamay tusaale yar baan ku siinayaa صح waxaa dhacday hadda ka hor israa'iil waa taqaanaa baan filayaa صح nin wariyaabaa waxa uu waraystay prime ministerkii israa'iil ama yuhuudda saad u garanaysaba صح waxa aan jeclahay inaad hadalkayga yara dhegaysato si aad ii fahanto dad baa kula jooga oo xoogaa mashquul inaad u eg tahay ay iila muuqato walaal meheradaan fadhiya dad baa yara salsalaamayay markaa si fiican baan ayaan marka ma ii soo jeedin kartaa sidii aan ku dhegaysanayo oo kale ma ii dhegaysan kartaa weliba si ixtiraam leh cafwan raalliga ah walaal runtii ma doonayo anigoo kula hadlaya inaan meel kale ku mashquulo waayahay okay tusaalaha aan ku wadaa waxa uu yahay nin prime ministerka israa'iil ah yaa waxa u yimiday nin wariyo oo ree Falastina waraysi buu la yeelanayay wuxuu ku yiri waxa aan haystaa buu ku yiri gurigan aad degan tahay dhaxalkiisii baan haystaa oo gurigan aad degan tahay aniga awowgay baa iga dhinto iska lahaa maantana adiga xoog ku haysta ma laga yaabaa haddaba hargeysa inaan anigu kaaga soo horreeyey oo awowgay hargeysa adiga awowgaa uga soo horreeyey oo anigu iska leehayba ma dhici kartaa ilaa fikir bay isweydaarsanaynaay inaan leeyahay baa anigu hargeysa ma laga yaabaa صح ودعك كرتان walaal si horta walaal waa kaaga jawaabayaa Aydaruusow maxaydiin wada maadsantahay fikirka yawla maxaydiin magacayga maxaydiino Aydaruus baan ku bixiyay may magacayga waa maxaydiino marka runtii walaal wad maadsantahay way jirtaa hadda waxa weeyaan inagu Soomaali baynu nahay taariikhda markaan ku hadalno wax badan oo taariikh oo aynaan ogeyn baa runtii jira way dhici kartaa sida aad sheegayso inaad iga soo horeysay ama aad sheegan way dhici kartaa anna inaan kaaga soo horeeyo runtii waa dhici kartaa laakiin waxa weeyaan waxaasoo dhan runtii marka laga yimaado taa Israa'iil waxay 48kii markii Ingiriisku ku beeray Ingiriisku yimaadeen iyo taariikh dhow bay ahayd moogtahay laakiin waxa weeyaan dadka Soomaalida ama Somaliland hadda garaadaan dhaqamadii hore dadka waxba uma kala soocnayn oo inuu qofku qabiilkiisa ku faamo iyo inuu qabiil kale macnaha wax ku sameeyo iyo wax taariikh oo kala soocnayd ma jirto dadku Soomaaliyeed bay wada ahaayeen iskolar bay ahaayeen waxay ku kala duwanaayeen ma jiro waxa weeyaan runtii marka taa laga yimaado maanta waaqiciga yaala runtii waxa weeyaan waxaan wax maanta aniga iyo adiga iyo bulshada kale ee wadanka joogta wax maanta wax dhashay maaha waa wax muddo badan soo jiitamay oo soo socday oo dhaqan noocaas oo soo jiitamay weeyaan waxa weeyaan xalka kali ah runtii dad badan oo isku dayay bal in waxan laga baxo hadda waxaan maleynayaa soo Yurub baad joogtaan Soomaa caadiya adiga iyo dadkii halkan ka tagay ama Hargeysa ama Soomaali ka tagay marka xagga tagteen markaan xagga tagnay waan ka xumahay suldaanku hadal fiican buu waday laakiin malaha khadkaa ka xun baan u malaynayaa waayahay anaa hadalkayga sii wada kabtan waxaan u malaynayaa khadkaa kaa go-ay aad iyo aad baan uga xumahay jaanis labaad baan ku siin doonaa waxaan idiin sheegayaa horta nolosha sideedaba waxaa ugu liitay isdhiib qofka isdhiiba baa ugu liita haddii aynu gabooyo isdhiibno maanta horta wax allaala iyo wax kuu soo kordhaya haba yaraatee ma jirta faa'iidana ka heli maysid inaad isdhiibto inaad tiraahdo waxaan ka guurayaa Somaliland warsow lagama yaabo Somaliland inaad adiguba lahayd asalkeega hore hadda tusaalaha aan bixinayo waad arkayseen nin Falastiiniya wuxuu waraystay ra'iisul wasaarihii Israa'iil wuxuu ku yiri waxa aan rabaa gurigan sharciga aad ku degan tahay inaad ii sheegto waayo gurigan awowgay baa lahaa dhulkan aad degan tahay awowgay baa lahaa dhaxalkiisiina waa kan marka sideed ku degan tahay buu ku lahaa waa su'aal macquul uu weydiiyey wuxuuna weydiiyey wax uu xaq u leeyahay
waayahay waan idin soo wada qabanayaa dhammaantiin qof kastana jaanis baan siinayaa waxaan haystaa 40 daqiiqo oo jaanisa qof kastana waa aan 40 daqiiqo wax ka siinaya qof kastaba 2 minutes baan siinayaa fikirka uu hayo dadka ha kaga dhaadhiciyo labada daqiiqo fadlan waa 2 minutes way qof kasto aan soo qabto qofna 2 minutes uga badin maayo la socda 2 daqiiqo oo jaanisa saacadan halkan aad ka hayaa yaan la isku xadgudbin fadlan waan ku soo qabanayaa Cabdishakuur Maxamed Negasti waan ku soo qabanayaa adigana dhammaantood soo qabanay soo dhawaad adigu ku soo barnaamijka السلام عليكم ku soo barnaamijka kabtan والله مقلي وانا ملينيا محديرو si fiican baa lagu maqlaa barnaamijkana wada la socotaa soo maaha ina aad iyo aad baan ula socdaa problemkan ka jira burco iyo 2 daqiiqo oo waxaad haysataa fursada waxa jirta hal mashkulad baa jirta gabooyo uu ka guuro Soomaaliland oo meel kale u guuro wax aqliga galaya wax maskaxda galay midna maaha kowdhe anu ordo nin gabooya waan ahay laakiin reebari ah waxaan u taagnaa 2002 ahayd meel aanu ciyaar ka daawanaynay ayaa nin majartoon Umar Maxamuud ayuu nin reer kuul beer wuxuu ku yiri midgaan baa tahay biskoolad buu la soo baxay dhuftay dhageyso biskoolad buu la soo baxay ku dhuftay ninkii magtiis waxa laga bixiyay gaalagacyo laga bixiyay yani waxaan ku sheegay xataa dadku inay xataa iska kala wanaagsan yihiin kala dadnimo wanaagsan yihiin baan ku sheegay nin gabooye kala ah lagu xiran boosaaso ninkii dii wax dilay gaalgacyo tagaaween madow gaalgacyo magtiis gaalgacyo laga bixiyay ninkii balag marka Soomaaliland problemka ka jira dadka waxa Soomaaliland soo qabanaya ninba dad baa halka la laayay waa la leeyahay waa la dilaya iyaga waxa la wadanka guur marka qaabkan macni macquul ma aha inaan wadanka guur wadankan hooyadood ma lahan istaaq wadanka waa loo sameeyay ma baanday soo qabanaya mid kaliya aan ku darsanay waxa way gabooyo israaca ka kaca meesha hubkiina qaata dhulkiina dagaalama inta ilaale kan ugu dambeey nafta ka baxayo taas aan u aaminsanahay MJ jaamac waa soo qabanaya saaxiib inta waaya ku soo qabtan way la socotaa waan maleynaa muxidiin marka anu problem noocaas oo badan baan u joogay marka ma ahan in maanta burco problem yar ka dhacay in la yiraahdo loogu guuro Soomaaliland ma adeer Soomaaliland iyagu ma wada wadankan wala la leeyahay ilaahay wadankan qolo bila aadan uu yiri qaata ma jiro waayahay kabtan labadaadii daqiiqo way ku dhamaatay aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida fiican ay aad ugu hadashay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kabtan thank you na waa mahadsan waayahay waxaan soo qabanayaa Mr MJ kaamira ma lihide maxaa ka qaldan de waa ku soo qaban lahaa saaxiib laakiin kaamirad waan okay qabo soo dhaw kabtan waxa laalay waxa aad cay hayso iyo fikirkaaga oo dhanba aniga ku soo qabtay bal ka waran soo dhaw horta waa ruuxooda wanaagsan koodida maya waa ku soo dhaweynayaa waxa aan rabaa wax allaale iyo waxa aad cay gabooyo u hayso saaxiib inaad ka hadasho dadkuna ha ku maqlaan hadal hadday wada caytamaysa hadal hadda waa hadlayaa gabooyo horta gabooyo horta kamid la yiraahdo ma ii jawaabi kartaa gabooyo waxay waar midgaande haddaayad midga ka hadal fikirkaaga anaa ku soo qabtay oo aad hadda caysay su'aal baan ku weydiinayaa sababtaan ii soo qabatay gabooyo waxay su'aasha iga jawaab gabooyo waxay anaa ku sheegaya gabooye su'aal baad weydiisay waan kaaga jawaabaya anna markaan su'aashayda ku weydiiyo waa inaad iga jawaabtaa okay waayo gabooye kaaga jawaabaya macnaha gabooye waxay u dhigmaan waa dalada guud ee aanu isugu nimaadno dabadeeto tusaale ahaan hawiye oo kale hawiye waa maxay waa hawiye de isaaq waa maxay waa qabiil majeertaan waa maxay waa qabiil fariid gabooye like that hadda waad ifaantoon malaynaya jawaabtaada bayaa waayahay intaas dad isku imaanay ininka xaas ku keenay xaydaabka xaa niga dhigay oo beela badan su'aashii dayda Ahmed JM Jamac su'aashii dayda aniga okay qolo ma tahay aniga anu waxaan ahay nin la dheeraayo maxaadara maxaa tiri maxaadaran ahay macnaa de qabiilka dalada guud ii sheeg jilibkaaga iga daa dalada guud anigu nin saacadaan ahay sacad macnaha oo ayaa ma jeerteen ba may oo maxaadare waa maxaadare ma habar gidir ba may waa qabiilkayga weli baad maqal
dee may macnaha dalada guud isku hoos timaadaan bal horta ii sheeg saaxiib mj jaamaca saaxiib wade waa maxaadbare waa qabiil gaal u degan oo degmada daarsalaam ma maqasho wareedhe mj aniga su-aal baad weydiisay waana kaaga jawaabay qabiilkaaga ii aniga kaaga jawaabay wallahi qabiilkii waan ku sheegay nin maxaadbara baan ahay maxaad u qarinaysaa iyo nasabiyadaada sumo wallahi maxaadbaraan ahay sumo wallahi war maxaadara yaa garanaya dadkay daawanaya bal hadda ii soo qorayaa ii garanaya ninkaasi qabiilka uu sheeganayo soo qor dadka ayna kala saarayaysu su-aal baad weydiisay si sharaf baan saaxiib kaaga jawaabay si sharafna waan kuu soo qabtay waaye soco bal weydii waar soo qora dee waar yaa dhaheen dadkaana daawanayo ismaaciil cali xuguri aniga waa ma dhibaan baa la leeyahay ma oo khaldan yihiin adiga hadda waxaad soo lahayd midna wuxuu kuu soo qoray laandheere midna wuxuu kuu soo qoray cid taqaana male aad ma wada akhriisanaysaa walaa waa kaa gabadha dambe waxa way khaldamayaan midhibaan min hal su-aal baan kuu sheegayaa waxbaan kuu sheegayaa waayo dad baa ina daawanaya moogta dadkaasaa ina maqlaya hadda soo maaha bal haddaba eeg haddaad saa doonto u caytanto anigu nin kula caytamaya ma ihi adiga haddana waan ku soo qabtay waxaad ku hadlaysa inaad dadka maqashiisa darteed hadda waxaad igu lahayd midgaan waa xayawaan midgaan oo isoo qabo adoo sidaa ilaan ku soo qabtay ilaa iyo hadda erey xuna kuma odhan inaan ku waayo waxa lagala soo baxaa guriga waalidka waxa laga yaabaa inaana tarbiyad fiican kala soo kaa diin badanahay waa kaa aqoon badanahay ma fahamtay maad iga diin badanto maad iga aqoon badan tahay ma adigoo sidaasaad markaa caytamaysaa aqoontii meeday caydu waa maxay cayda dadaa mutaystay ismuuj waa qof yaan ku caayay anigu mayda calacalkan adiga haweenkiinuba calacalku waa maxay hadda ma calaacal baad maqlaysay dadku calaacal may maqlayn wallahi ma maalinta waa laga yasa waa dadku isdii hadii meel wala degan yihiin wada hal ma fahanteen dee laakiin qabiilkaaga oo sax inaad sheegtay maxaad u qarinaysaa adigu anigu nin maxaadara waan ahay waxay la dhashay saacadii ma garanayaan waa la garan waaye qabiilkaaga dhabta ma noo sheegi kartaa wallahi waa qabiilkayga caytanba wallahi waa qabiilkayga saacadii geedi baa saciidii geedi baa la dhashay nin maxaadara waan ahay nin ma fahanteen kooride marka aan leeyahay calaalka iska daayani oo oohintiin iyo cidna nima dishe heerkiina baas lama mariye facebook si khaldan baa hal su-aal baan ku weydiinayaa anigu ka dhabaxaan ku leeyahay ninkii iyo dumarkiinu kala hara mj jaamac hal su-aal oo kaliya ku weydiinaya hadda weliba daqiiqada saaidan kuugu daray hadalkayna lasii fogaaday su-aal baan ku weydiinaya hadda haye tusaale ahaan iminka fikir baad ka hadashood soo bandhigtay moogta ha waayahay fikirkaaga anigu ku odhan maayo waad qaldan tahay waayo haddaan ku dhaho waad qaldan tahay dee anaa markaa maangaab ah waa inaan fikirkaaga soo dhoweeyaa markaan dhegaysto anna waa inaan kayga ka hadlaa bacdeen waynu isla eegaynaa labadii fikir meel dhexaynu isugu imanaynaa hadda fikir baan ka hadlayay waar fikirkaygii adoona ka hadal waad caytantay hadda waxaad ku dhawaaday daqiiqad ka hor waxaan ahay aqoonyahanku ma kacaytamaa bal hadda su-aashaasuu niga jawaab saaxiib may dee adunbaa nolosha dhabtaa ku tusaya qofka hadduu wax qaadan waayo tusaale badan wanaag badan baa soo qoray dad midaysan noqda dad waan daalay marka inaad ayadba qofka inuu dambi qabo ana xumaana igama aha ma fahantay kor wixii dambigana allah subxaana watacaala erey xun adiga kuma odhanin manaan hooyada iyo aabbahay aniga igumay soo barbaarin horta saaxiib inaan dadka caayo bila'aadan weligay ma caayin noloshayda intaan noolaa qof bila'aadana ma caayin waxaan ka icaayo xitaa waan ka tegaa hadda adigu waad caydantay waana ku soo qabtay ilaa iyo hadda haddaan kudhaa ka waran hooyadaa maxay ku sameye kan maxay ku sameye kan kale maanaadii caayaysay no taasi ilbaxnimo maaha anigu waxaan leeyahay dumarkiin in yaro waanaa baan ku siinaya ay dhegeyso yar dhegeyso daba aniga dhegeyso please 1 minute please anigu waxaan ku leeyahay ininkiiyo haweenkiinu kala hadha cidna nima disho waddanka xorriyad baa kaga nooshiin xorriyad baad ku martaan ininki maraggiinaan dhegeysana macalaalkiin anigu gorgoran soo waa sax su-aal baan ku weydiinayaa somaliland walaa puntland walaakan dumar baa wasiirka maxaa dumarka u soo sharaxdeen haddaanu kulula haddaan bal ku weydiiye ka waran waar adduunka dumar baaba wax ka bedelada iminka
ولا مسلم ولا كفر مهم بحكي بدلسة قري قادو نيت كدغ قري قادو ما فيسبوك بحكي بدلسة ودمشada ogolaada geeridu marba noo shaqalta fikirkaaga waanu ku ixtiraameynaa waayahay haddii uu naafacaan qaadan doonaa haddii kalena uu ka tegi doonaa waa Soomaalida caawinaysa hadda tiraan qoriyo huba ursanina sidii isna baan cilad degaynaa wallahi billahi dhaqaaleed helisan laakiin hadal social media hadal ma soo kordhiyo ma fahamtay qofkii uu maqlay taas u dhaay social media oran hadalka inoo sax waxa tiraa horta hadalka balada inoo sax ku soo celi maxaa tiraa waayaan waxa la taqala fikir baan ku niisu boorinayaa maanta intaas ku tagtaan lacag dhigta hub iibsada gobonimadu waa loo doocoodaa gobonimadu waa loo dhintaa marka inagu caddoonta gobonimo loo dhiman oo hadal ku keentaan no possible taasuna wax dhacaya maaha ma fahamtay gobooye maanta Yurub uu ku badan yahay intii laba daqiiqo waa yahay kabtan aad iyo aad baan kuugu mahad celinayaa 2 daqiiqo Janice ku hayd laakiin 5 daqiiqan kaaga dhigay dadkan aan Janice ka siinaya aad baan saaxiib maadsan tahay ayadana wuu soo dhaweynaa hadalkaaga waa soo dhaweynaa fikirkaaga waa soo dhaweynaa bal waanu eegi doonaa aad iyo aad baan ku salaamayaa saaxiib okay ciao waa yahay haddaba dhageysta waxbaan idin sheegayaa horta sideeda banaanba dulqaadku waa shay muhiima oo loo baahay mar kasta in la wato sida aad shaarka u wadato inaad dulqaadkana u wadataa way wanaagsanta waayo horaan idinku sheegay waxaan idinku yiri tarbiyada gurigiina laga soo bixiyo umbad bulshada la soo dhaxgalaysaa tarbiyada gurigiina laga soo bixiyo haddii ay tahay tarbiyatul saqajaan waxaad la soo gali doontaa bulshada dhexdeeda hadday tahay tarbiyatul diini oo adaab iyo akhlaaq iyo ay ku dheehan tahay dadnimo waxaad la soo dhaxgali doontaa bulshada waana lagaaga mahadnaqi doonaa waayahay qof kale aan soo qaban doonaa waayahay qof kale aan soo qaban doonaa in chance ka siinaya maanta connection ku aad buu wanaagsan dadka dhan uu soo qabanaya waaye qof kasta oo barnaamijka doonaya inuu ka qayb qaato uu igala qayb qaadan doonaa waqti saa u sii badanna iima harin qabo uu dhacayaa hinda mursal qabo waan soo wada qabanayaa cabdiraxmaan negasti baa tahay axmed negasti baa tahay haddii ay gabadh qaban weydo waa adiga ha way qabtay dhawow fikirkaagana ku soco 2 daqiiqo chance aad haysataa السلام عليكم والله لو سلام يا مركوري waan kaa qaaday fikirkaaga ku soco waxaad haysataa 2 minute chance wixii aad bulshada ka dhaadhicinaysa ka dhaadhici والله adoo raali wax yar miiga daba geyn kartaa arinta ka hadlaysay waxaan aad iyo aad uga cudur daaranayaa waqtigoo idu yar darteed qof aan barnaamijka la socon aan waxoogaa kasii dhaadhaadhiciyo ma rabo igana raali noqo yeyba raba ciao kuma soo waxba iga raali noqo walaalo qofkii barnaamijka la socda fadlan chance aan kaga dhaadhiciyo ma hayo hinda adigu iga raali noqo chance kaas anigu ma heli karo ku soo adigu barnaamijkaaga waxaad haystaa السلام عليكم 2 minute chance aad haysataa ku soo barnaamijka okay thank you very much aad baan idin salaamaya dhammaan iyo dadka meesha ku jira horta arrin muhiim ah ka hadlaysay ummadana cadaaladda deeqda ninkii hadda ku jirayna aad baan hadaladiisa uga xumaa waxa weeyaan qofka islaamka ah waxa weeyaan diintu waa cadaalad qofka islaamka ah waxa weeyaan ilaahay buu hortagaya ilaahay baa xisaabaya saa sheegtana ixtiraamku waxa la yiraahdo diinta dhan baa ma garanaysa diinu nasteexa weeyaan yani diintu waa nasteexad ixtiraam bay leedahay sharaf bay leedahay diinta markaa nasteexa ma ii sheegi kartaa diinta nasteexada diintu yani waxay nasteexatay qofka yani jannana way geynaysaa cadaabna way ka badbaadinaysaa haye marka waxa weeyaan mar walba dhinac kasta la eego waxa weeyaan diintu nasteexay ba ku tahay waxa weeyaan waxa lagugu keenay baa waxay tahay in wixii wanaagsan ay ku farto wixii xun ay ka celiso haye ilaa iyo imika iimaad magacaabin diinta nasteexada ileen diimo fara badan baa adduunka ka jiray maxaad u magacaabi lahayd diinta nasteexada waa ta islaamka islaam baan la ilaaha muhammad rasuulullaahi waynu nahay dad islaam aynu nahay si wanaagsan intan ayo qolama tahay anigu ogaadeen baanay diinteeda amisan tahay sunniga waayahay dhaqankaaga iyo qabiilkaaga iyo diinta waa 3 keed hormaraysaa diinta
ma sida aad iminka dadka u sheegaysuun baa mise waa sida aad jeceshahay may waa sidaan jeclaya ilaahay gu ogyahay hagaag ku soco marka barnaamijka nin fiican baa tahay marka horta waa saasoo waxaan mataqaanaa hadda wadiga ogaa jigjiga wadiga ogaa barnaamijkii laga sameeyey haddaad ogtahay reerkii sameeyeyna waad ogtay reerkii ku dhiirayna madaxweyne cabdi maxamuud cumar waa nasab dhalay aad baan u salaamayaa madaxweynaha ku soco barnaamijkaaga marka dhaqanka in badan soo jiray ee waqti adag ahaa ee cid walba ay ku hagaagi weyday ee ku dhiiran weyday dadkii sameeyey ee deegaankii sameeyey ee u bardhigay dadka deegaanka ka soo jeeday ahaayeen horta aad iyo aad baan madaxweynaha u salaamaya waan aad baan u taageernaa madaxweyne cabdi maxamuud cumar aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya madaxweynaha waa nin aad iyo aad maskaxdiisa iyo caqligiisuba ay u shaqaynayaan waa nin mar kasta jecel horumarka ninkaasi waan qirayaa anigu 100 jeer haddaan ahay maxamed maxamed xaashi waan qirayaa waayo qofka bini'aadanka inaad wax qabadkiisa iyo kartidiisa inaad xaqirtaa waxay ka mid tahay naaqusnimo liidnimo waa liidnimo halka ugu hooseysa inaad qof bini'aadan wuxuu qabtay ama wuxuu ku hamiyey ama himiladiisa inaad xaqirtaa waa liidnimo aan u arkaa ku soco barnaamijkaaga وسعرت وحلي إن أكرمكم عند الله أتقاكم بالليل لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلى يرتو وحوين وحوين قلوبتا جسمك ما إيجو بدنك ما إيجو قبيلك ما إيجو وحوين أرنت أو نكاس كل هذا شنطة صومالي وحين كل هالنبو كل هذي وينو تاريخ دي سهينا ونيور هير كانت كسوتشي داوار هير عن آدي آدو تشعلهي عن تاجرو وحوين نك يقول ريه وقاعدين سوقته آدي آد مرة نقول أحسن هاي ogaadeenka waxaan idin leeyahay gabooyow ogaadeenka soo dhawaysta walaashada markasta saasaan idinku baaqayaa wallaahi inaanan been idiin sheegin oo bilaahi baanan idiin sheegin ku soco kabtan barnaamijka marka aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa marka hadda xilligan lagu jirana qof aamusaya ma jiro social media jira warbaahin baa jirta xor baa jira saxaafad xoraa jirta hadalkaaga madax bannaantay waxaan leeyahay dhagax meel dhow buu gaaraa dhegna meel dheer inaad idinka laftigiin waxa social media badisaan weeyaan inaad mataqaana ummadiina baraarujisaan weeyaan inaad xagga waxbarashada iyo wacyigelinta la sameeyo weeyaan inaad idinka laftigiin muuqataan oo maanta cod baad haysataan dunida meel kasta joogtaba codkiina aad ummadiina ku beerisaan weeyaan waxa wanaagsan aad fartaan waxa xun aad ka reebtaan Soomaalidu waxa weeyaan si marka Soomaalidu si kastaba haatay ummadu khalad iskuma raacdo haddii mid uu ku dulmiyay oo ku dhabay kan kale ag taagan baa wuxuu leeyahay ninkan waxa weyn hadalkan uu khaldan yahay kada ummadu xumaan mar walba la isku raaci maayo mataqaana wanaag in la isfaro weeyaan hadda deegaamadan mataqaanaayo Soomaali galbeed aad ogtahay ummad ku dhiiratay oo mataqaana intaas oo gabdhood iyo intaas oo wiilal isu guurisay oo waliba salaadiintii garaadadii ugaasiyadii dadkii ugu waaweynay arrintii bilaabeen oo rabaan inay dhaqanka ay mataqaanay bedelaan oo la ogaa oo ummadoodan ay ogeyd baa oo telefishinada ku jira weeyaan waanan ku taageersanahay ummadaha kale ee shanta Soomaaliyeed sida Ismaaciil Cumar Geelle iyo mataqaanay meel walba in la qaataan oo jecelnahay ee anagu oo idin garab taagan mar walba aad iyo aad baad kabtan u mahadsan tahay nin ay sawir gabdheedu u saaran yahay Facebook-ga kelmado fara badan soo weydiinaya haye wuxuu leeyahay adigu yaa tahay qabiilkee tahay waar anigu nin gabooyaa baana sawir gabdheedna waa kuu saarayo nin iyo naag waxaa tahay baan kala saari waayey laakiin waxaan ku leeyahay anigu nin gabooyaa baan ahay qabiilkayga anigu ma qariyo waan ku faanaa waanan jeclahay qof baan u jawaabayay kabtan aad iyo aad baad u mahadsan tahay magacaaga muxuu ahaa Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa horta gabooyuhu yani magacan buu lamid yahay sida Hawiye Daarood Isaaq waa la taarifu waa la taarifu waa Ahmed iyo Maxamed iyo Umar baa la yiraahdaa ummadda waxa weeyaan mataqaanay laangaabna hadday noqoto ninkii jannada laga waayay baa laangaaba ma garatay qof walbana waxa weyn Ilaahay wuxuu qoran bukoonka ka qaadaya absolute qof walbana waxa weeyaan mataqaanay agtiisa Ilaahay haduu sharaf iyo ciz ku leeyahay sharaf iyo ciz buu leeyahay haduu san lahayn sharaf iyo ciz male waa si wanaagsan weeyaan qabiil aad baan kaaga mahadcelin qabiil waxba ma dheera marka halka kaga soco barnaamijkaaga halka ka wad umada wacyi gali wuxuu sheeg ninkaasina waan soo qaban doonaa marka ninkii yani si xun ku aflagaaday ama si xun aragti gaar dhiibta ama ku yiraahdo waa sidaana waxa weeyaan waxba dhag ha u dhigin hawsha halka ka wad aniga horta sideedaba af caytama iguma yaallo hooyada iyo aabahay iguma soo barbaarin inaan caytamo la iguma soo barbaarin akhlaaqdaydu ma yahayn akhlaaq caytanta waxay ahayd tarbiyatul diini
macnaha waa waxa la igu soo barbaariyay akhlaaq aad iyo aad u wanaagsan ma caytamo af caytama aniga iguma yaalo waa ruuy ka muuqata caytami maayo qofna caay maayo ciddii caytamaysana iyadii u taallaa aad iyo aad baad umahadsantahay halka ka marka mujtamaca wax walba waa laga helaa ku soo dhaweynayaa madaxweynahana aad iyo aad baan u salaamayaa madaxweyne cabdi maxamuud cumar aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan hadda rabaa haddii aan la idhaahdo inaan baarlamanka Germany inaan u gudbiyo warqad aan ku cadaynayo dhibaatooyinka lagu hayo beesha gabooye inaan baarlamanka Germany u gudbiyo ayaan ku rajo weynahay 15 July ilaa 16 July inaan u gudbiyo ayaan ku rajo weynahay madaxweyne cabdi maxamuud cumarna inaan si toos ah ula kulmo ayaan ku rajo weynahay insha Allah ma uu ku soo dhaweynay si fiican buu ku soo dhaweynay arrimahaana waanu soo dhaweynayna haddii la yiraahdo reerka iyo beeshaba aad iyo aad baad mahadsantahay kabtan aad iyo aad baad mahadsantahay waa ku salaamaya thank you Kamal ibn Yusuf yare soo daa su'aasha waa kaaga jawaabi doonaa su'aalahan waan la socdaa soo daa su'aasha waa yahay waxaan soo qaban doonaa Raxmed Roosi waa yahay Raxmed Roosi baan soo qaban doonaa raxmay qabo waa yahay ودعيا تلفونك هذا سودو هلو السلام عليكم سودو ان رحمه سودو مقعد صور رحمه معها ها ولا رحمه لا رحمه انا رحمه الروسي رحمه الروسي سو معها ها وانكم سلامي ولا سو فنانه دمي معها ها aad baan ku salaamaya walaal adigii inta meesha ku jirtaba dhamaan rag iyo dumar waan waxaad leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatu waad maasantahay raxmed soo dhawow barnaamijkooda la socotay baan filayaa raxmed roosi wallahi wala waan la socday bartamaanka la socday waana kula socday shaqo fiican oo aday samxiidiino halka ka sii wad baan ku leeyahay walaalo ma rabin inaan soo galo waxaan rabaa inaan ka daba tago inankii ugu dambeeyay inankii ka horeeyay محمد جامع رحمة ها معناها مكي عيتمي بدر بتاعي كده بتكتب يعني وحبان ربعنا كذا دعيه بكوس أنا وقوم بانوله كده بتك واي وان فكر كذا سودا وينيا كده بتك يجو صعود كل ده سانو كرتي ويل جويا بتاعي سدا أنا أساس وكلنا هاي أنا كنت جويا أنا هاي I love جويا ما شاء الله عم بو أنا ولا له هذا رير قصته عتوب كل قول بايد الشيء أبي محمد إسماعيل بالورين شري سيفي عم بقول قرنا يا عبيدا هاي يركسوا قالين قوي كشيء جوا محد برو وعنيقة يستجا هدي أنا تقرن إن الساعة كشيء جيان قوت المام يعدك وهو وين ساعة كيسوق الشيء كان يا وحوي عبد تهليل وخلا أنا أقول السعيد كل بنا الآن وقرنا يا عبد كما دبان كابنا قلنا جراديونس عبد الله هيبة وسعدة محد برو كوشك تنقعد عينيا محد برو وكوكو صدح كوسو كوشكتي وحتى أنت سؤالك هذا سوقاته محد برا للسوق أي هذا وشيل بكاسوق وكمدي هاي سيد عبتي تهريب وتاجي هاي أنا وحن تاجنا محمد سليمان توعى قال السعيد كل بنا يسوقنا وسعد مركواتك كانت قرنا يا مياه أذو قدس عبتي تهريب يدو تقاني سفي عمرو قرنا يا وعبد تهليل وسعد أنا ونوح سفي عمر وقنا جراد كما دبان كنا واحد ويا سعد أنا ونسعيد كل بان هي محمد سليمان حلقة سنة كسر كذا وحتى يعني أبان وحناقين أنتو حلقة سوي استاجين ومتجاني وحصاقرة وأنا ويلير محمد وحندي لها كل الداعي ومرنا وركش إلا دوري لا تنكشرتا وسميارين هذا فالحون ما لها أنا مالي وحمارك تكر أنا هذا قوي أنا قصومها هذا قوي بس يويني والله وأنا اللي لا تنكره وأنا نادر كي وأنا كوينة هاي لا بيلا بعدين وأنا هذا قوي هاي لكن هذا أنا ساسيت هاي مر هذا الرجوز كمان اللي قاعد هو يسلقي ينبال لا موت مر قاعد يسوي كمون ما نقشرنا هذا أنا يسوي ما والله أنا قمر بينا سوقلين حلقة كذا جيستمر لكن وحن دافع وهاي أنتوا صبورتك كسوقرين وكورادين بتجاهيو لكن أنا قم يلا عيتمي ما يقدر ما هو عيتم بكرتيد بعي وعلي نادر عي ماركت وعليو إنا كاسانو ولور سنة ما لكن وحن دي لها السوان دي بالسجون نقو واحد ربتي ده دوك الشيء
laakiin qofku qadiyadu ka hadlay wuxuu ka hadlayaa soo faragashan haddaad adigu aji noqonaysid iyo haddaad wax noqonaysid baa adig ku jirtaa anigu waxaan rabaa inaan kaa dhaadhiciyo because waxaad ku tiri maxaad bara ma aqaano حسن أو سوق بندر maxaad bara صح هي maxaad bara dadka waaweynaan kuu sheegay aniga isagu maxaad baraan isla nahay laakiin isagu wuxuu taagan yahay meeshu cabdi tahliil taagan yahay aniga waxaan taagan meeshu maxamed salmaan taagan yahay marka adigu iska fahamna cabdi tahliil marnin wuxuu ahaa halkaa iyo qaryada miyaad ku tirinaysaa horta waxa weeye caqliga bini'aadamku inuu shaqeeyaa la rabaa qofka horta hadduu 20 jir gaadho waa nin weyn oo caqligiisa isku maamuli kara ma jecli anigu horta kulley dadka wax dafira ama qabiilka qariya waa waxyaabaha aan aad u necbahay laakiin saasay tahay haddana anigu kulley waxaan ahay qof dulqaad badan dul wax lagu qaada leh maskaxdana ka shaqaysiiya waa laga rabaa adaa ku watee yacni haddaad meelahan oo kale soo fariisatid oo tahay nin maanta dadkiisa u istaagay oo rabo inuu dadkiisa wax la soo saaro ugu doodana dulqaad baa laga rabaa social media uu iska dhib badan yahay dad baa ku caynaya dad baa yacni waxaan meesha looga jeedin kusoo qoraya dad baa ku ammaanaya intaba inaad dabarka saartaa laga rabaa aadna waan kugu raacsanahay yacni waxaan u soo galay waan ku dhagaysanaya wallahi sababtaan u soo galan intaasay ahayd waxaad tiri maxaad bara ma aqaano inaad si kale u qaadato yacni sacad waxaa jira maxaa la yidhahdaa hawiye ah inaanad u qaadan waad iska fahmi kartaa ka dhiijo de adigu yuu ahaa cabdi tahliil ninkaasi waa sacad waa cabdi tahliil ma dhibaan waa ballaaranya waa nin sacada cabdi tahliil meeshu taagan yaan kaaga wadaa maxaad bara aniga isaga dhahaa marka waxaan dhihi lahaa maxamed oo isla xishood laakiin yarku waxaan u arkay inuu qabiilkiisaba qarinayo raxmed roosi والله بالله كل وحو كودي waxaan oran lahaa walaal isla xishood apologize arinta ka samee meelahan meelaha waxa ku soo qor lahayd maaha xishood baan lay aad buu fududaaday maadaama adigu tiri ma garanayo waxaan mooday inaad confuse ku noqotay inaad garanayso oo maaragtay aad soo saartin wallahi been ku sheegi maayo raxmed roosi waligay iyo allah iimaan maqal haduu sacadigu markuu sacadigu yiri waan gartay markiiba inuu ma dhibaan yahay laakiin markii hore ee uu qabiilka kale ii sheegayay maan garanin eeg maxaa bare maanta ku baraya Muxyidiin maxaa bare wuxuu ka kooban yahay 3 oday waa dhagacas haddaan fanaaniinta kaaga soo tilmaamo cabdi tahliil oo sacada ku isoo ka soo jeedo anigu waxaan ka soo jeedaa Siciid Kuula Maxamed Saleebaan aad iyo si fiican marka waxaad baruu ku sheegayo waa 3daas maaragtay jilib weeyaan oo aniga isagu aan isku raacnay maxaad bare laakiin aan kala leexanay isna uu sacad yana Siciid Kuulahay sida Maxamed Saleebaan marka raxmed roosi meel fiican baad arinta ka soo gashay aad iyo aad baa kaaga mahadcelinay horta arintaas marwina soo gal laakiin maxamed waxaan dhihi lahaa meelahan oo kale meelahaad ka caytami lahayd maaha meelahan oo kale xitaa meelahaad waxaad adigu rabtid qadiyada rabtid oo aaminsano laakiin qof walaalkaaya intaad soo gashaan eedaday baa dhashay meelahan oo kumaanahan oo kale intuu soo galo inuu ka caytami ceeb weeyaan maxamed yaro waxaan ku leeyahay walaal isla xishood arintaana apologize ka soo samee raali geli dadka walaal ilaa iyo hadda uu ina daawanayaa laakiin ilaa iyo hadda wax raali gelina muu soo qorin wax commentiina ma soo qorayo waan u jeedaa NJ jaamac baa ugu qoran uu ina daawanaya ilaa iyo hadda uu ku dhageysanaya adiga ilaa iyo hadda wax apologize-na kamuu soo bixinin wax talo ma luuqu igala soo xiriiri doonaa mise adigu luuqa kaala soo hadli doonaa ma ogi ma dadku way wada garanay maxamed yare inta badan maxamed yare waxaan ku leeyahay weynow oo maaragtay maanta nin weyn baa tahay waxaan ku leeyahay arintaas mar dambe ha u noqon maaha meelahan meelihii aad ka cayn lahayd dadka ceeb weeyaan meelaha gaarka lagu yahay in isku jiijidana waxay rabta ku leeyahay laakiin arintaasi aad u diraysaa raxmed roosi balada magacana ka dhawaaji arintee walaalo fariintaasi aad u diraysaa macnaha hadda aad diraysay waxa ninka waxa la yiraahdaa maxamed jaamac jeex baa la yiraahdaa ma fahanteen dadka ugu celi mar kale magaciisa oo saddexan raxmed roosi maxamed jaamac jeex baa waa nin reer Burca maxaad u diraysaa marka fariinta u diraysaa maxay tahay fariintan u diray waxa weeyaan meeshani ma aha meeshii aad ka cayn lahayd dadka oo waxaad soo qorteen arkeed soo qor lahayd intaad mayga qaadatayna yacni waxyaalaha aad weydiisay Muxyidiin kaaga muu jawaabin siraga nimrada uga hadashay igama jawaabin su'aalaha marka uu booday qori qaata maxaan sidan dhaa waa qof qadiidkiisa yacni dulan qodol dulmi u taagan marka anigu maxamed waxaan leeyahay waxa soo kala ha u noqon
waxaan jecelahay apologize inuu ka bixiyo waxaasoo kale dib ha ugu noqon walaal aad iyo aad hadda in adeerkii rumaa ku jira oo la yidhaahdo Kamaal ibn Yusuf yaray wuxuu leeyahay ninkaasi xagiisa aniga raaligelin ka bixinaya buu leeyahay hadduu ninkaasi yahay xaal baan ka bixinayaa okay xaal looma baahna laakiin apologize baa loo baahan yahay raxmed roosi su'aal kalaan ku weydiinayaa ha walaal maanta dadkeenu miyay u baahan yihiin inay qori qaataan mise waxay u baahan yihiin inay awoodda maskaxda isticmaalaan bal hadda midda ay sheeg horta wallahi walaalo dagaal maanta waxba laguma keeno walaalo awoodda waxa weeyaan horta qofka bini'aadanka waa inuu qofka inuu wuxuu yahay tusaa oo dadka yacni la iska celiyaa way fiican tahay waxa maanta burco ka dhacayna waxaan ku faraxsanahay maaha waa wax aad u fool xun waxaan dhihi lahaa dowladda Somaliland anagu wadanka waxay yiraahdaan dadka nagu dhexnoolin idinkuma dhexnoolin waad la leedahay wadanka yacni waan ku dhashay ilaa awowgayga afartanaad anigu halkaasaan ka yimid waad garanaysaa baan malaynayaa marka maanta si fiican ma laga yaabaa inaynu inagu uga soo horreynayba Hargeysa dadka maanta degan ee sheeganaya inaynu inagu uga soo horreynay oo aan iska lahayn oo uu yeeshay lahaan laga yaabaa arrintaas wallahi way dhici kartaa oo aniga kula hadlaya markaan wareystay hooyadeed meeshay ka farcantay meeshay ka yimaadeen wala aabahay wala awowgay meel kaste waa hargeysa marka way dhici kartaa in loogu yimid walaalo marka meeshii aan saahayn waxaan ka xumaaday in maanta dowladda Somaliland amba dadka u dhashay Somaliland inay yiraahdaan dadkana dhex degan ma dhex deganin wadanka waan leenahay waan wada deganahay dad islaam aan nahay in la kala xishoodo oo maaragtay sidii taswiirka loogu dhaartay madaxweynaha muuse ugu dhaartay in saas lagu dhaqmaa fiican walaalo waxyaalaha maanta burco ka socda wax fool xun especially caruur iyo maata in la taabtaa waa xaaraan xag diiniyeed xag gaalaan xag Soomaalinimo wax xun weeyaan walaalo oo qof kastoo bini'aadan uu ka damqanay waxaan dhihi lahaa dadka xuquuqdooda ha la siiyo ha la kala xishoodo dagaalna anigu cidna kulama taliyaan walaalo maanta dagaal faa'iido male Soomaali wax ka keeni lahayd waxaan jeclaan lahaa dadka aniga laftaydu dagaal inaan iclaamiyo ma rabo barnaamijyadayda waxa ka madax bannaan inaan dagaal iclaamiyo iyo inaan caytamo intaas oo dhanba barnaamijyadayda aad iyo aad bay uga madax bannaan yihiin mana raba anigu inaan dadka xumaanta u horseedo waxaan jeclahay inaan mar kasta wanaagga ugu baaqo oo aan beeshayda gabooye aan baraarujiyo oo aan idhaahdo community meel kasta ka sameeya jahliyada badan gobol degmo tuulo inta qurbaha joogta iyo inta wadankii joogta bacdeen jahliyadaha marka la sameeyo sow isku xidh gabooyaha la isku xidho guud ahaan ma imanaya raxmay sax anigu waxaan rabaa hadalkii ugu dambeeyay inaan yacni u diro dowladda Somaliland iyo dadka Somalilandba waxaan leeyahay nimayow Somaliland ha ka dhigina maanta Somaliland waxay ku socotaa yacni sida loo wado ku dhala maahe waa u dhalo Somaliland yaan laga dhigin ku dhala maahe waa u dhalo yaan Somaliland laga dhigin because inagu waan ku dhalanay in la yiraahdo ku dhala macnaha ma nihin dad dhoof inay inagu Somaliland kelmadda fahan u dhala maahe waa ku dhala maahe waa u dhalo in laga dhiga maaha macnaheega fahan hal su'aal baan ku weydiinayaa raxmay yacni haddaanad u dhalan haddaad ku dhalatay waxba kama tida waa inaad u dhalatay fahan meeshaan ka wada waa inaad qabiilkii tahay markaa Somaliland macnaha waa inaad tahay satiisan waa inaad tahay Somaliland waxaan madaxda iyo Somaliland buu dariyaa Somaliland yaan laga dhigin ku dhala maahe waa u dhalo yaan Somaliland laga dhigin waa la wada leeyahay wadanka macnaha anigu ma yihi qof ku dhashay ee waxaan ahay qof u dhashay macnaheega ma fahmin si fiican baan ku fahmay raxmay مثلا Somaliland waan ku dhashay iyo waan u dhashay waa kala laba hadduu maanta nin reesh xaq igu raadan karo waniyo wadanka waan u dhashay igu raado u dhala maahe waa ku dhala maahe waa u dhalo yacni qabiilka waa isaas yacni faham macnaheega adigu waad ku dhalatay laakiin anaa kaa xigo oo u dhashay yacni u dhalo amba ku dhalo yacni anaa qabiilka ujeedadu waa sidaas waa anaa kaa xigo weeye ha ku dhalashada garow dhalashada yacni aniga qabiilkii weeyaan ku dhalana waa adigoo kaloo la yidhaha waad ku dhalatay uma dhalan okay su'aal baan ku weydiinaya marka haddana macnaha gabooyuhu ma dad dhoof ku yimidayba mise waa dad u dhashay anigu waxaan aaminsanahay inay yihiin dad dalkan u dhashay oo loogu yimiday maxaad aaminsantahay raxmed roosini horta mid baan kaa dhaadhicinaya waxaan aaminsanahay horta Soomaaliya oo dhan horta Soomaalida mid baa iskaga khaldan rabaa inaan ka dhaadhiciyo
Soomaaliya waxay aaminsan haye waxay noo yaqaanaan madhibaan madhibaan ma wuxuu dhibaan bay degaa noo wada yaqaanaan gebigeennaba madhibaan wuxuu degaa koonfur Somaliland waxa degan reer abtigayo loogu yimid nimanka reer Muuse dhaliye Muuse baa Somaliland ilaa Burco ilaa Hargeysa daasan ugu tagi maysid koonfur Muuse xabad mooyaane nimanka madhibaan koonfur bay degaan marka nimanka Muuse ee u badan maaragtay waxaan ka hadlay wala dhex degaa anigoo Muuse ma ahay laakiin meesha waan deganayn laakiin majority-ga dadka meesha u badan waa dadka reer abtigaya ee loogu yimid anuma maleynay in iyaga loogu yimidba okay raxmed rosi midda aan ku weydiinaya waxay tahay horta dadku waxay noo wada yaqaanaan madhibaan soo maaha madhibaanku waa jilib ka tirsan oo dega kaalkacayo u badan Puntland iyo koonfur bay u badan yihiin madhibaanku waa jilib wad ogtahay waxaan toddoba jilib baanu ayaanu ka koobanahay sax okay waqtiga waynu qaybsanaynaa raxmed rosi hadal hadda adigan kugu ixtiraamaya ku soco waayahay inagoo waqtigana qaybsanayna labadeenuba waxaan hadda kuu sheegayaa waxay dadku inoo yaqaanaan baa tiri madhibaan dhammaanteen laakiin madhibaan waa ka mid a gabooye dallada guud ee aynu isku hoos nimaadno maxaa dadka u sheegaysaa maxaan se anigu u sheegayaa anigu waxaan u sheegayaa in dalladeenna guud ee aynu isugu hoos nimaadnaa ay tahay gabooye oon adiguna maxaad aaminsan tahay dee gabooye waxaan u malaynayaa inay dallada la isku raaco la sameeyey 1992-93 meelahaas baa la sameeyey kelmadda gabooye dallad toddobada halkaa inaga hubsan raxmed roosiyey taa anigu igu noqo qodobkaa sida igu maqalaan u sheegay qodobkaa igu noqo sida kulley anigu colowo og baan gabooye alxaasil dalladeenna guud horta maxaa la idhahdaa middaa iga jawaab gabooye absolute waad saxan tahay hadda talabaadna inaan kuu saxaan isku dayaa jaaniska markaadaan ku siinayaa magaca gabooye la idhahdaa wuxuu baxay 4 qarni ka hor 4 qarni inta ay tahay ma taqaanaa adayga waa 40 sano u malaynaya 400 oo sano weeye haddaba aan kuu saxan adayga saxan ma maqal waa taas ma qarni ka hor waxaynu lahayn boqortooyaynu lahayn boqortooyada waxa la oran jiray gabooye waxay ahayd boqortooyo gabooye ah Soomaali 400 oo sano ka hor may jirin laakiin gabooye waa jiray maanta laakiin waxaad moodaa inaynu teelteel ku nahay dunida America dad baa inaga jooga Germany dad baa inaga jooga Saudi Arabia dad baa inaga jooga Dubai kan over the wall ilaa Soomaaliya bacdeen gabooye hadda wuxuu noqday dad dhamaan teelteel baynu ku noolnahay dhamaanteen waan fahmay oo meelo kala duwan baynu degnaa ilaa iyo hadda degmana maynaan yeelan wallahi taasi wallahi tan kaga joogto waa yani kala inaga kala daadsanaad inaga inaga timid bay taasi ku dhacday haddii gabooye inta isku tiirsanaan lahaa siday maaragtay qariiduba isku ilaashatay isku tiirsadaan oo isugu yimaadaan oo isku ogol yihiin oo isku maqleen taasi hadday jiri lahayd waxaan u malaynayaa dee taas way dhici lahayd waan yeelan lahayn anigu eedaa cid kuma eedaynaya gabooyan ku eedaynaya raxmed roosiyey hal mid baan ku weydiinayaa صح سؤال بان كويدين يا رحمن روسي صح ما دبان با تاي مس موسى anigu waxaan ahay madhibaan ninkaas wuxuu ku sheegay maxaad baraana isug ninkaasi uu ceeboobay umada oo dhan baa hadda maqashay isaga uu taala laakiin raali gelin haduu soo bixiyo annagu inankaygi yahay oo cafinayna cid kalena uma taala hawshaasi cid kale iyada u taala waxay oranayso laakiin inagu inankeenni yahay soo maaha ilaa iyo hadda anigu waxaan ku leeyahay waan cafinay inankeena adigu maxaad leedahay wallahi anigu nimanka aan ka dhashay maxaad bare waxay ka baxeen madhibaan inayna ahayn laakiin anigu ilaa hadda madhibaan baan taaganahay nimanka maxaad bare muddo waayahay isuga dabar raxmed roosiyey dad badan baa rabaa inaan wax ka dhaadhiciyo wax yaraan ku dhamaystiro ilaa 1986 ilaa hadda waxay taageen nimankaas inay maxaad bare yihiin ay madhibaan ahayn laakiin anigu waxaan aaminsanahay madhibaan inaan ahay maxaad bare kas yahay laakiin iyagu waxay ku leeyihiin maxaad baraan nahay waan la simanay madhibaano waa jilib gaara
waayo raxmed roosi waxbaan rabaa inaan dadka u sheego horta raxmed roosi waxa weeyaan gabadh madhibaana waa gabadh gabooye ah dadka isqariyana maaha raxmed roosi waa gabadh fanaanada oo caana oo la garanayo ima waxay naga mudan tahay respect bay naga mudan tahay صح laakiin dad badan oo bilaa akhlaaqi waxay doonaan bay odhan karaan waxay odhanayaan hadday doonaan raxmed roosi waa qabiil kale waa kan war hadda caawa iyadii baa idinla hadlaysa oo afkeega ka sheegaysa qabiilka ay tahay marka caqliga ka shaqaysiiya qofku waxa uu ku yidhaahdo uun qor wax kale ha qorin raxmed roosi annagay naga dhalatay iyo kanay ka dhalatay stop joojiya taas waxaan idin leeyahay raxmed roosi waa naag gabooye ah waa naag laandheera ah uma baahna inuu gabooye oo dhan baad hadda isku dayeysaan inaad sheegataan waxaas waxaanu aqbalayna maaha qofka macnaha fiican ee aad aragtaanba idinku idinka mid yahay hadda qaar badan baa soo qoraya raxmed roosi annakay naga dhalatay kanay ka dhalatay raxmed roosi shiis gabooye raxmed roosi is gabooye raxmed roosi maxaad leedahay marka والله wax badan baan kala talan lahaa hadda nimanka ama dhibaan kale leeyahay waxay yiraahdeen waxaan nahay hawiyan ku abtirsanayna kuwan ka dhashay waxay ku abtirsadaan soo socdaan waxay ku abtirsanayaan nimanka bahageliyeeda ee ogaadeen rakan anigu aan ka dhashay waxa ka soo haray aniga iyo in yar on tirin karno kulligood niman bahgeliyay noqdeen markay ku abtiriyaan bahgeli bay ku gelinayaan nimankan ma dhibaanay hadda iyagu wali ma dhibaan daladii ma dhibaan hoos fadhiyo waxay ku leeyihiin maxamuud gabdaataan waxaa dhanba inta laga kaalayo niman yahow dad walaalo ah oo isku mowqif oo meel ku wada socda aan noqono taasaa ka qurux badan anigu hooyadii waa naag muusa oo maxaa la yidhahdaa bakara ma garanaysaa ina kaligool bay dhashay isma qarin karo sax ina kaligool si fiican baan u aqaanaa ha cutub kaligool baa anigay dhashay ma fahantay oo dadkii dadkii hargeysa laga yaqaanay caanka haya marka walaalow aad iyo aad intaasaan ku leeyahay waxaan ku leeyahay yani waxaan la yaabay dadka jooga Mareykan oo kale Yurub oo kale ee qabiilo kala sheeganaya niyo adaa meeshan British ka ah dhulkan aan joogno British adaa ka ah inaad marka qabiil kale aad sheegatid wax qurux badan maaha waxaad leeyahay isku duubnaada walaalayaalow sheekada burca ka dhacdana waxaan leeyahay dawladda Soomaaliland ha ka noqoto dadka masaakiinta ha la soo daayay in waxba dhiman ilaa hadda qofku waa in yani la soo cadeeyo dambigu sameeyay waxa ma sameeyay waxa aan cod dheer ugu diraynaa dawladda Soomaaliland in ay dib u eegto kiiskaasi cidii qalad kale ay soo saarto bacdeen xukunkooda lagu qaado soo saas ma raxmed roosi saas way aniga saygu maqaalo waxa bali waxaan bil yani oo qanaaxay shoogeen ka bacdi ba ayaa jeelka loo gudbinaya ma dheera markaan waxaan jeclaan lahaa dadka haday dambi geysteen dayn la dhigo banaanka la soo dhigo oo waxay geysteen maaragtay la sheego raxmed roosi kuwa caytama maxaad leedahay adigu fikir nooceed ka aaminsan tahay kuwa caytama inay yihiin aniguna fikirkan ka aaminsan aan ku sheegaya adigu maxaad ka aaminsan tahay kuwa caytama de wallahi qof intuu halkaas anigu maanta adiga soo mid muxiidiin waxaan ka aqaano male kuma garanay maanta muxiidiinow waxaad gashiyo waxaad guddo kuma garanayaba xitaa gaweey qof aad ka tahay ma garanayo marka haddaan ku caayo maxay macnay sameynaysaa kuma garanay maxay magaalo kula ma joogo waxaad gashiyo inaad xuntahay aniguna gabooyo qabiilkaan ka ahay baan kuu sheegayaa maadaama adiguna ii sheegtay ilaa iyo hadda anigu dadka xitaa uma sheegin waxaan ku soo galaa inaan nin gabooyo ahay waa la wada garanaya laakiin cid aan ka ahay dadku inta badan ma yaqaanaan anigu waxaan ahay nin tumaala ما شاء الله سودو ولا له أنا هاي برواق قرنتي وقرني صبر مرينا قبل حدقها جيش بيشرتها ها قبل برواق قرنتي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سودو ولا له سودو قف عيتمي أكيس وكيا لا عينا ذروة مش كقول تعلم إذا قلت لكن أنا قلت قرت عنه جويا مركز تبع رجوع معك يا الرحماي إن أنا يدك عيتمي أنا لا عيتمين inay markasta dulqaadka iyo samirka ogaadaan inay maskaxna awoodi horta way nagu jirtaa ee waa la ina tusi waayay mid baan kuu sheegayaa ninka maanta maskax leh oo islaam ah oo yani open minded bagaalo tahay in maskaxdiisu furan tahay maskaxdiisu inta in laga furan tahay oo intuu halka ku soo qorin midgaan yahay qofkaas ma kula tahay adigu qof maskax furan inuu yahay qof diin inuu yahay qof wax kala garanayo inuu yahay qof yani bilaadanimada ka mid tahay xitaa ay ku jirtay inuu yahay ma kula tahay qofka halka midkaan iyo midgaan ku dhal kugu soo qoray waa qof adiga ka liita
وقف آد ليتا تاس أنا والله كوقرية okay horta raxmed roosi qofka horta hadduu caytamo waxa weeyaan horta tarbiyadda sideedaba waxa lagala soo baxaa guriga waalidiintaada hooyada ayaa bahaa siday kugu soo tarbiyeeyeen ayuunbaad bulshada la soo dhex gelaysaa haddii guriga aad ku soo barbaartay ee aad ku soo kortay haddaan tarbiyo fiican laga bixinayn marka horeba dee bulshada waxaad la soo dhex gelaysaa un akhlaaq xumo haddii gurigiina tarbiyo fiican iyo adaab fiican laga bixin jiray bulshada waxaad la soo dhex gelaysaa akhlaaq wanaagsan dulqaad iyo sameer hadda anigu guriga hooyada iyo aabbahay waxaan kala soo baxay akhlaaq iyo tarbiyo wanaagsan inaan caayo ma jecli haddii xitaa la caayo waan dul qaadanayaa kii sii socdun baa absolutely walaalo absolutely يعني anigu de kulli يعني Soomaali waxa u noqotay waaban ba u noqotay midkeenyo waxa u noqotay inay ku cil baxaan inay wax weyn ku yeelayaan waxani waxay qof anigu ilaahay baan ku dhaartay qof weyn oo halka inta ku istaaganaa ya raxmad roosi midgaan yahay de qofka qof iga liitaan u arkaa because hadduu qof bilaadan yahay iguma wadaheen qof maskaxu u furan tahay oo ilaahay ka baqay oo bilaadan igu kelmada iguma wadaheen yani midgaan yahay soo ka wadanaa maanaadana midgaan ila hadlaysaa يعني قفص كمشوا تاجين هي وبقرن كرتا ولا على aad buu dambeynaya walaalo Soomaali waxaan farlaabtay walaalanahay islaam baan nahay Soomaali baan nahay waxa lagu jiraa 21st century baa lagu jiraa nimayahood Soomaaliya maskaxda fura dad walaalanahay waxana weeyaan waliba qarnigii 12aad baynu ku jiraa raxmad roosiyay 2018 saas maaha ha waxaan tusaale uga soo qaadanayaa boqorada Ingiriiska boqorada Ingiriiska adduunku inuu isbedelay oo adduunka isbedelay waxaad ku garanaysaa xitaa madaxweynayaasha cadaanka markuu yimaadaan iyadoo xiran galoofiskeeda islaami jirtay Obama nin madow markuu yimid galoofiska inta iska saartay salaanta marka adduunku maya waxaan sheegaya Obama adduunkana waa isbedeleen waxa weeyaan wali waxaan garan lahayn maskaxdan qufulan awooyaashii hore ay uga tageen ay ka bixila walaalayaal waxa iska saar waxaas jaahiliye ahayd waxaas waxay ahayd waxaan maaragtay taariikh ahayn bay ahayd wax la iska yiri bay ahayd yani hebel baa bari baqti cunay hebel baa halkan ka dhacay ani raxmad roos baa ilaa 400 sano oo baqti cunay maaniga anigu shaqayga jirtaa inaad shaqaba kuma leeyahay absolutely raxmad roosi aqli fiican maxaa inaad ilaa baan kugu dhaashadaan ku weydiiyay maxaydiino 400 sano oo baqti cunay maxaa adigaaga jira igu soo darsan Facebook raxmad roosiyay marka wallahi anigu Soomaalinimada aad baan u jecelahay aqli fiican baad ku hadashay uma maleynay Soomaalinimada igu jirtay in qof Soomaaliya ku jirto aad bay Soomaalinimada igu dheer tahay walaalayaal laakiin Soomaalida raxmad roosi hal fikir baan kugu darsanayaa ha waa raxmad roosi weey hal fikir baan kugu darsanayaa raxmad roosi markaad eegto Soomaalida adigoo aqli fiican iyo aragti toosan ku eegaya iminka dunida kale oo dhan xagee joogtaa horta raxmad roosi USA la joogtaa baan filayaa ha walaal anigu Mareykanka joogaa walaalo okay gobolkeed ka joogtaa Minnesota Minneapolis joogtaa hagaag waayahay tusaale yar baan kaa siinayaa Minnesota anigoo aan ku noolayn oo dhaqankeyga iyo shuruucdeedaba la socda okay Minneapolis abwaan asad waa saas ay u sheegtay raxmad roosi waad maqlaysaa waayahay Minneapolis waad ku nooshahay shuruucdeeda iyo dhaqamadeeda wax badan baan ka maqlay waa maqaalun bay igu tahay laakiin kuma hayo practical anigu kuma hayo anigu waxaan ku noolahay Germany hagaag ma sha Allah iminka Minnesota waxa ka jira dhaqan iyo xeer iyo sharci waxaasoo dhan isku soo duuduub sharcigooga ka weyn laakiin reer Minnesota waxay leeyihiin dhaqan u gaara dadka cadaanka ama Amerikaanka ee ku nool ee reer Minnesota soo saas maaha صح وما سنتك يا walaal haye dunida oo dhan macnaha waxa ka jira wax la yiraahdo sharci ama xeer ama dhaqan reer Minnesota xeer iyo qodobo qabta ay leeyihiin sharciga ka sugo Soomaa
أما شرعي لفتي سابق قبطها absolutely أفريقيا هذي نتجنا كينيا شرعي بين هذا هاي إثيوبيا وإنت أفريقيا كلا هذا يا صح إستيغان كلا هذا إستيغان صح إثيوبيا شرعي بين هذا هاي كينيا شرعي بين هذا يوغندا شرعي بين هذا هاي تنزانيا نفس الوقت تروح دول مركا لما قضى بوت صالح كاسينيا صح تبي كصومالي ده نقول بين دونا absolutely هي واي هاي dhaqanka ama sharciga inta badan la horreysiya oo ay dunida kala horreysiisaa صح tusaale ahaan Kenya waxa ka jira qofka tuuga ah ee waxada ها nolosha lagu gubaa taayir inta la dhex geliyo waa sharciga u yaala dadka bulshada ku dhaqan dalka ما لوين تاسع ما شاء الله سبحان الله هي Tansaaniya kale nolosha lagu gubaa صح okay wariya Fosi Salah waxaan ku leeyahay inoo daji xaaladda waad qaldantahay aad baad u qaldantahay aan ku socdo barnaamijka waa nin aan garanayo ayaa comment soo qoray oo uu jawaabayay aan ku socdo Ethiopia waxa ka jira iyadana sharci gooniya dhaqan ma isticmaasho inkii la oran jiray Malla Sanawi prime minister kii hore ee dhintay Ethiopia baa waxa lagu yiri Malla Sanawi oo wadanka tuugadii baa ku badatay sidaynu ka yeelanayeen laynaa isagoo xidhnaa baa lagu yiri صح wuxuu ku jawaabay waa kelmad xabashiya laakiin aniga isku dayay inaan turjumaano هي wuxuu yiri leebina tirano gin ichi katayasa wanjalno wuxuu yiri tuuganimadu waa shaqo هي laakiin haddii lagu qabto waa dambi iska cad waa in la xukumaa صح haddaba Soomaalidu xeer qabta ma leedahay xeer horta ma leedahay Soomaali waxaan kuma jeclaanin Maxamed Roosi waxaas oo tusaale waxaan soo qaatay hadalkaagii waxaan jeclaa tiri Soomaalinimada haddaba Soomaalida xeer qabta ma jiraa والله هرتو كلمة سببتان كلمة أكويري تدور عرك من صود إن الصومالي ما ينهينه waynu nahay laakiin Soomaalidu ku sharafta badnaa ee ugu laandheeraysnaa baynu nahay xisaabta ku darso كوي لابتي سي قراعي بس كنت تدبا قصري laandheerayaal baynu والله وبالله والله كوي لابتي سي قراعي بس نقطي عاد متي سؤال شادي ويدي سمحي sagal ina sarkaal soo dhaw way والله Soomaali sharci qabta haday leedahay maanta ba ay 30 sano burburka ku may jireen walaalo dhibaatadaasina may saarnaateen waxaan u maleynayaa si ku socotana Soomaali waxa uu tashanay inuu ajnabi والله taada tashan weyd waa lagu tashanaya walaalo horta anigu kama soo horjeedo Soomaalinimo laakiin waxa aan rabaa in la helo qodob dadka qabta ama sharci ay Soomaali leedahay sida ay dawladaha kale u leeyihiin hadda saayaro qaban ma soo qaatay tuugada sida loola dhaqmo iyo waxyaabaha lagu sameeyo laakiin Soomaalidu iminka tusaalaan hadduu tuug wax ka xado waxa la oran war miskiinka maxaad ku haysataa ama maxaad miskiinka ku haysataa laakiin la oran maayo qodobkaas aan ninkan qabanaya sii daadee sharciga la marnayaa cid ku oranaysa ma la taa horta mixidiino Soomaali hadduu sharciga kala dambeyn jiray de maaliyo midgaan iyo ku lagu soo taagnaadeen adigoo waxba lagu dhaamina laguma yaseen adigoo wax xaliyaalo wax lagu dhaamo aan jirin laguma yaseen hadduu Soomaali sharci wax kala qabanaya jira walaalo saan iyo maanta ma yahaadeen marka walaalahay waxaan leenahay walaalayaal wax badan bay sheekadani soo socotay hadda aniga waxaan rabaa Raxmed Roosi 15 June ilaa 16 June in aan u diro baarlamaanka Germany warqad aan ku cadeynayo aan kaga hadlayo sida xuquuqdeena loogu tunto dhulka Soomaalidu ay degto oo dhan sideed u aragtaa adigu se USA iyo baarlamaanka dawladda USA maxaad haddaad jahliyada gabooyo tihiin maxaad ku baaqaysaan oo aad ugu baaqaysaan dadkiina bal Raxmed Roosi ka hadal arrintaa horta wallahi walaalo qof dad يعني العذادينيي ilaa intaasoo sano madaxa looga taagnaa ilaa haddana lagu taagan yahay dee qof cuna xaqa haddii afka la qabtana wuxuu feero ka dilaacaa maanta waa timeka intay gabooyu israacaan isqabsadaan adduweynaha ay eeg maanta waxaa ka khaldan dadkii technology-ga meel kasta awal waxbaa qarsoonaa waxba lama maqli jirin waxba lama arki jirin imika laakiinse technology
telefoon yar baa la duubayaa waa la soo hadlayaa wax kasta banaanka yaala sheekadu hadda fiidiyoogani aynu ku wada hadlayno youtube-ka dowladda Germany baan horgeyn doonaa waxa weeyaan fiideo kasta oo aanu GYL kaga hadalno dowladaha caalamka iyo beesha caalamkuba way og tahay waana daawanaysaa hadda Germany toos bay inoo daawanayaan dowladda Germany ما شاء الله عادي ما هي ان waxa weeyaan xaquuq kasta yani wada waqti Soomaaliyeed waxa dadweynaha laga caawiya dadkaas uma ka midnahay caawimada ku jira in anagana xaqaygana la siiyo oo Soomaaliland waan u dhalanay naga siiyo xaqan ku leenahay xaq dawladeed iyo xaq bini'aadanimo balan uu ka codsan lahaa walaalo dadka kale markaas soo qabso oo dadka masaakiinta la daayo oo la soo daayo dadka la xidhay waliba dumarka in aadariya caruurta lama taabto gariye karta raba ninka raga waa nin raga laakiin ilmo iyo dumar lama taabto taasi waa ceeb weeyaan marka waxaan ugu baaqilaa madaxweyne iyo madaxda iyo wasiirada iyo Soomaaliland dhanba inay dadka masaakiinta caruurta iyo dumarka horta bal ay wax imika maanta waxaan maqlay waxa la soo daayay ilmo yar yar dumarka ku haray meesha waa in la soo daayaa oo dadka xaquuqdooda la tuso oo qofku hadli karaa oo qofka yani wixii loo geystay ka hadli karaa xitaa wax hadduu xitaa gardaran yahay meesha la arko waa in la arkaa waxa meesha ka jira haddii wax la qarinayo inaad qurun baa ku jira waxaan jeclaan lahaa dadka in xorriyadooda inta loo soo daayo sida wuxuu jira maanta miiriyaha waad arkaysaa dadweynaha way haysataa sidani in yani gaboyaha wax lagu sameeyay meel kasta ku jirtaa markaas Soomaaliland hay soo cadeyso dadka walaaladooda dhulka wadaleyn wada degan yihiin si bini'aadanimaha loola dhaqmaan leeyahay walaal hadda aanu raxmo roose intaasaan kaaga baxaya walaal macaane dadka meesha ku jiro dhan waan salaamayaa ayadana walaalo waxa ma tarayso ay aad maanta amba adiga aniga amba wiilka kelmadan midgaan ilaa maalintan dhashaan maqlay waxay noqotay laangara macruuf niyo marka waxaan dhiraa walaalayaashay dadka Soomaalida anu fanaanad baan hay dadkan u dhaxeeya waan wada jeclahay Soomaalinimada raxmo roose iyadoo ay staatay annaga naga dhalatay anigu eeg maxay diin ahaan dadkeena waa la caayaa tacadiyo fara badan baa loo geystaa sidaas ay tahay ilbaxnimo kale ayaan kula socdaa dadka Soomaalida kalena waan la socdaa hallo way naga dhaxaysaa uqdadna uma qabo laakiin deecidda ka dhashay baana ogo wala dadku isku mid ka dhashay Soomaaliya ha waa tahay laakiin dadku isku mid ma adiguna raxmo roose horta dadku isku mid ma ka dhex galeen والله او بالله او تالله ودنك mareenkan aan oo yar baan imaaday 24 sano jooga saddex gabdhood oo adduunka isugu jecel walaalada ka jecel waa gabdhay saaqa oo nasaba oo sharaf leh dadku isku mid ma bili aadankan isku mid ma dadku isku mid ma dad waxa jiraan cusriyeysan meel kastana dhibaatadana way ka jirtaa meel aan leenaga cusriyeyn ma jirto walaalo laakiin dad ba maanta dad badan oo ku xun dhibaatadana way jiraan dadku isku mid ma Soomaaliland dad badan oo sharaf la jooga laakiin hadda furtu iyagay ku godan tahay hayso soo cadeeyaan badila Soomaaliland anigu waxaan leeyahay dadka hada dad badan baa commentigooda waxay soo qorayeen isaaq baa sidana kana ma sheerteen baa sidana hawiyaha sidana war all of them anaga dhamaan way noo sameeyeen qabiil aanu ataagaynaana ma jirto barnaamijyadayda waxaan idin sheegay inay ka madax bannaan tahay ay inaan qabiil weeraro oo aan personal attack sameeyo waxaasoo dhan aniga way ka madax bannaan yihiin barnaamijyada qabiil kastaba shaafiye shariif buu leeyahay walaalo qabiil kastaba in xun fiican buu leeyahay muxuudiino qabiil kastaba in xun iyo insan buu leeyahay walaalo dad waxa jirta midaasaan aaminsanahay especially dadka hadda wadankii ka soo baxay indhaha u furmeen waxay fahmeen waxaan in waxba ayna wax macno lahayn marka waxaan dhihi lahaa walaalayaasha indhaha fura walaalayaal bal indhaha fura waxaan inay deynaadir waxaan muxuu yahay ilaahay baan kugu dhaashay macna ma ku sameynaya adiga nin weyn oo intuu maanta soo istaagay midkaan kugu yir wax macna ku sameynaya mixidiino ii sheeg anu qofkaasaan la yaaba ilaahay baan ku dhaartay qofkaas maalintaas sharaftii wanaag anu hayay بايقدر أنت هدي ولد أنا ماذا متكانة إلى هذا الساعة تقف قحوة مارك تقف ويهيشر يقوموا إلى هذا المعيدينه لكن كورن هدي على ضمن كعير وتو أو عي أبو شواب تكورن رحم الروسي شواب ما من نقف كان قف ويري أنا كذا قاعد تيشك شواب وكام ذيه حتى dad badan baa waxa ay la yaabeen markaan ku rixitaa dawladda Germany si toos ah inoo daawanaysa way la yaabeen waa xaqiiqo GYL baa la yiraahdaa page-kan
way dhici waanu ka kartaa sharci garaysan yahay Germany buu ka sharci garaysan yahay Germany baa laga maamulaa hawada aanu isticmaalaynaa waa Deutschland midaas dadku sheegaya human rights ka ma aragtay waxa weeyaan aad bay dadkan Yurubiyaanka iyo Mareykanka aad bay uga dambeeyaan dadka la xaqiro ba ugu xaq badan oo ugu xuquuq badan taas la ogaado dadka la xaqira wadanadan ugu xuquuq badan uguna xaq badan lana dhageysanaya hadalku dana soconaya hadda waxaynu haynaa wax badan oo changeable ah Raxmad Roosiye waxyaabo badan oo changeable aynu haynaa حسن علي نور وان سو قبان دونا نغس تاديغان كسين دونا جانيسكا رحمه روسي markay ka baxdo waa adiga wala dadka janiska si laakiin waxaan leeyahay Soomaaliya dhagaha fura maskaxda fura bal adigu maya رحمه روسي gabooye fariinta aad u diraysaan ka rabaa wallahi gabooyada waxaan u diray inay israacaan oo tashadaan oo mid noqdaan oo meel ka soo wada jeestaan oo isticmaal wada ogtay waxay si loomada u sii dadkeenu waxa ka dhex jira wada ogtay mixidiino iyagii baa isa sii kala guraya marka waxaan jeclaan lahaa intay mid noqdaan inay danahooda qabsadaan tooda ay ka taliyaan Soomaali way tashtay iyaguna ay tashadaan sax way adigu waxaan meelaan kaaga faahfaahin kara ma waxyaalo badan baa rabaa inaan kuu sheego gaar baan kuu soo wici doonaa insha Allah gabooyi waa inuu saaca ku darso muxidiin ayaa lagu yiraahdaa walaalo muxidiin maxamed xaashim ay igu qoran igu darso facebooka ha marka waxaan leeyahay Soomaaliya walaalayaal oo dad walaaladiina baan nahay sharaf idinka mudan lambarkayga ku qoraya whatsappkayga diga soo wici doontaa insha Allah walaal adigana waxaan kugu ogahay sida aanad qofna ula caytamin qofna u caynin qabiilna ataagareen because qabiil kasta sheekhi Shariif Booleyn xuliyeen sanba Soomaaliya oo dhanna waxa fi sharaf bay aniga halkay ka mudan tahay laakiin dadka qabyaalada iyo qurunka iyo xumaanta wada iyo wax laga tagay oo suurtagal ahayn oo quruna oo yaani cawaannimo in lagu dhaqmo maaha taasoo kale cawaan qof aniga hal mid baan ku sheegay Raxmad Roosiyay iima sawirno inaan qabiil la caayo yana waxyaabaha ka sheekay waayo waxaan ka faa'iidayaan jirin bacay waxa ii sawiran uun dadkaygan gabooye saan u midayn lahaa iyo saan iyaga markasta cod dheer iyo cod kastaba aan ugu sheegi lahaa inay midoobaan oo ay iyagu isku tashadaan mid kasta haddii saas qof kasta samayn lahaa ku fikir lahaa maanta gabooye maanta yacni ay tacaru ilmaheena inaan wala future yeelno weeyaan tii fiiri awowgii isagoo ciilan buu dhintaa laga yaabaa isagoo madaxa laga taagan iyo midgayo lagu leeyahay adduunka ka tagay marka haddana caruurteenu waxaan rabaa inaanay iyagoo inay xur inagu waxa laga yaabaa inaynu inagu nolol aad iyo aad u dhibaato badan aynu la kulannay oo cay iyo tacadiye dadkeena loo geysanaya dhibaato fara badan inaanu la kulannay ayay u egtahay waxa aan cod dheer ugu diraynaa horta yaani ciyaalkeenu nolosha aan soo aragnay aanay ku noolaan maya waa inay helaan nolol sax ah tan maanta muxidiin aad ku mudan tahay awowgaaba ka sii darnaa iyo kii ka sii horeeyay isagoo ciilan buu adduunka tagay ku ciilan yacni maanta waxa loo ordaya waa caruurteena iyo future-ka iyo waxa soo socda waniya wuxuu awowgaa ku jiray oo adigu ku soo jirtay oo dadkiinii hore ku jireen ilmahaaga waa inaad kala dagaalantaa inay taasoo kale ku dhicin waxaan haddaba ka dhaadhicinaynaa beesha caalamka khaasatan dowladda Germany waxaan ka dhaadhicinaynaa in dadkeena mar kasta lagu xasuuqo Soomaaliya guud ahaan meel kasta oo ay joogaan waxay ahaayeen dad laandheerayaal oo boqortooyo ahaan jiray colaadii looga qaaday boqortooyada darteed in maanta dhibaatooyinkaasi loogu geysanayo beesha caalamka oo dhan baan u diraynaa baaqaasi khaasatan dalka Germany صح ka qofku inuu xaquuqdiisa iyo xaqiisa raadsado ceeb ma la Soomaaliyeed qofku inuu xaquuqdaada iyo waxaad xaq u leedahay inaad raadsataa oo haddii dul lagu hayo inaad banaanka soo dhigto wax ceeb ma leh waana raganimo qof kasto gabooye ka mid ah inuu taa oo maanta dibadda ku soo maqan inuu taasoo kala sameeyaan jeclaan lahaa arrintu si way ka sahlan lahayd marka waxaan leeyahay Muuse Biixi Cabdi inuu arrinta hoos u eego oo dadka ka soo daayay meeshii ku jiraan
وليبا أنا وحن كباقي dumarka إن برنامج la soo dhigan jeclaan lahaa waa haday fariintaydu aad gaadho iyo aad aniguna waxaan jamhuuriyadda Somaliland baaq dheer ugu dirayaa ee uu garwadeenka ka yahay mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in arrintaasi dib loo eego cadaaladdu sida ay tahay la eego haddii ay dadkayaga gabooye qaldanaayeen lagu qaadaba sharcigooda laakiin haddii laga qaldanaa waa in dadkaasi la soo daayo ayaanu leenahay dowladda Somaliland waxaanu ka codsanaynaa inay arrintaasi hoos ugu noqdaan oo ay dib u eegaan baaritaan dambana loo diro maxkamaddas waxa lagu kala baxaa wadannada naadir maxkamado iyo markhaati intaan lagu xidhinba waa inaad soo martaa sharciyada ka horeeya xidhitaanka qofkan muxuu sameeyay waa la kala dambi badan yahay dambiguu geystay yaa ku cadaynaya goormay ahayd waa inuu maraa laakiin tobigaasi inaan ka hadlamay hayn dad kale kullay ka hadli doono tobigaasi insha Allah walaal inay ka hadlaan bahda GYL anigu tobiga inaan ku soo galo ama aan ka hadlamaan rabin waayo dadku inay wan koobi noqdaan looma baahna oo ay hal ujeedo u ka wada hadlaan anigu hadda aan ka hadlayay waa ay ka duwan tahay tan haye marka waxaan ka cudur daaranayaa ama aan raaligelin xitaa ka bixinayaa mawduucaasi inaan ka hadla maan jeclayn maya dhib male anaa ku galiyay aniga ku galiyay anigana su'aasha kaliya u soo galay waxay inaan yarka aan maxamed jaamac ka daba tago on soxon ku dhaho meesha ma aha meeshii aad sidaa ku oran lahayd on ka raaligeliyay walaal ma fahanti imikana waxaan leeyahay waa idin wada salaamayaa gabooyin waxaan leeyahay gacanta isqabsada dadka walaaladeena meesha ku jiray Soomaaliyeedna waan wada salaamayaa kulligood rag iyo dumarba walaalo السلام عليكم اوكي رحمة روسي لو ولا هذا اللي هذه اد بان كو سلام يا رحمة روسي ان شاء الله ولا لك علي برشونا اكسن ولا المحيدينو اوكي ولا له هذه اد بان كو سلام يا رحمة روسي امد الصوماليه ماشي ku jirtan igu wada salaam walaalo kulligood dhamaan رحمة روسي baa igu wada salaamaysa waana wada maqlaysaan iyaga laftoodu aad bay ku soo salaamayeen qaar badan baa waxay ku soo qorayeen waxaanu nahay taageerayaashaada waan maqlayay waanu jawaabi kari waayey kulligood walaalo waan wada jecelahay aad baan idin wada salaamayaa ilaahay Soomaaliha mideeyo aad iyo aad raxmad roosi waa gabadh gabadha waana gabadh Soomaalinimada jecel nasab dhalay laandheere waa taas oo kala leeyahay aad baan ku salaamay raxmad roosi hayo walaalo hayo wixii okay ciao orbaniyo balbalkan day weligii ma soo galini okay raxmad roosi aad iyo aad baan u salaamayaa sida fiican ee ay barnaamijkayga la qayb qaateen waan uga mahad celinayaa raxmad roosi taageerayaashoodu aad bay ku soo wada salaamayaan dhamaan Charles kalama bixin karo waan ka xumahay waqtiga aad iyo aad ugu yar dhamaan waxaan idin leeyahay gabooyow dulqaad yeesha ficil iyo faa'iidana meel ma wada gasho mid la socda horta ficil waynu sameeynaa anigu markaan idinleeyahay ficil iyo faa'iido meesha ma wada gasho macnahaygu ma aha iska sii jeesada oo wax kastoo la idinku sameeyay qaata anigu idin marihi taa horta haddii naftaada iyo maalkaaga iyo hantidaada lagu soo dagaalamo dhimashada ka dooro midaas idinleeyahay waa haddii naftaada maalkaaga intaasoo dhan haddii lagu soo doonto dee isdifaac adigoo isdifaacaya haddaad dhimatana dee waa kolley waad dhiman lahayd laakiin si sharaf laad ku dhimanta laakiin anigu idinkula talin maayo inaad dagaal iyo qori iyo problem inaad gashaan ilaahay awood buu ina siiyey awoodda uu ilaahay ina siiyey mata jirka mise waa ta maskaxda labadaba waynu haysanaa haddaba tiinu adeegsanaayo fiican mata jirka mise ta maskaxda aan adeegsano ta maskaxda fiican inaynu adeegsano dhibaatadan aan ku jirnana waxaynu uga bixi karnaa inaynu maskaxda in badan ka shaqaysiino oo aynu in badan maskaxdeena adeegsano ma aha inaynu dagaal iyo haddii lagu caayaadna u jawaab oo cay ugu jawaab maaha taasi xal keeni mayso waxalaali iyo wax hala oo ay keenaysaa haba yaraatee horta ma jirto haddaynu maanta ku dhaqanno inaynu caytanno inaynu kayna caayaba u jawaabno inaynu ka xumaan faraha la galo u jawaabno inaynu kii dhooba intuu qasto aynu raahno waan la qasanaynaa taasi xal inoo keeni mayso wax hala oo ay inoo keenaysaa haba yaraatee ma jirto wax wanaagsan inaynu kor u baxno kor ma uga soconnaa danteennana ma eeganaa saynu uga bixi lahayn dhibaatooyinkan iyo waxyaabaha laynagu hayo
iyaguba waa kuwan dee beesha caalamka caawime iyo wax kasta iyo garaba weydiista innaga ma gacmahayna xidhxidhan misaafka de inaguna beesha caalamka inu ag taaganna iyaguba soo beesha caalamka gurmaduma soo doontaan inaguna waxaynu ag taagannahay beesha caalamka baynu inaguna gurmad iyo wax kastaba weydiisanaynaa iyo caawime iyo garaba iyaguba 24 saacadood waxay u soo taagan yihiin inay beesha caalamka sidaa ugu yimaadaan oo ay yidhaahdaan waxaanu rabnaa garab waxaanu rabnaa kan waxaan annaguna maanta waxaanu leenahay waxaanu raadinaynaa boqortooyadii aanu lahayn waxaanu raadinaynaa xuquuqdayadii waxaanu raadinaynaa wax allaale iyo wax naga maqan oo aanu xaq u leenahay waxaanaan xaq u lahayna raadin mayno haddaanu nahay beesha gabooye ha marka gabooyow aynu isku xidhanno aynu raadsanna waxeenii haddaynaan inagu raadsanin cid inoo raadin mayso cid allaaliyo cid inoo raadinaysaa haba yaraatee ma jirto waa inaynu inagu xaqii inaga maqnaa iyo waxaynii raadsanaa dadkeennii baa la laynaya dadkeennii baa tacdiye loo geysanaya dadkeennii baa la faquuqaya waxaasoo dhan miyaynu calaacallaa markaa calaacali mayno kaarto kasta oo ay keenaanba waynu keenaynaa maskax kasta oo loo baahaya inaynu isticmaalana waynu isticmaalaynaa inagoo mar kasta aragtida toosan wax ku eegayna iyo caqli wanaagsan oo aan xagga negativeka waxba ka eegayn mar walba xagga positiveka aan ka eegna xagga wanaagsan guul baynu rabnaa si aynu guusha u gaadhno waa inaynu positive noqonaa gebigeennuba haddaynu positive noqono guusha waynu gaadhna aan rabno laakiin haddii aad dhinaca xun ee qaldan uun aad ka eegto dee faa'iido keeni mayno wax laale iyo wax faa'iido ah oo inoo imanaya haba yaraatee ma jirto waa in aynu dhinaca positivekana wax ka eegnaa yaynaan xagga negativeka isticmaalin aragtida qaldan yaynaan waxba ku eegin ta saxan ee hagaagsan aynu wax ku eegno anigu saasaan ilaahay dhammaantiin waayahay aad iyo aad baan idin salaamayaa dad kalaa soo gelaya kolley oo barnaamijka iiga dambayn doona waxaan idin leeyahay dhammaantiin meel kasta oo aad joogtaanba idinma soo qaban kara hadda wax jaanisa mahayo waan kasii baxayaa waxa aan idin leeyahay dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa meel kasta oo aad daafaha dunida ka joogtaan inta ay habeen u tahay habeen wanaagsan dadka taageersan beesha gabooye aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan idin leeyahay waayahay raxmad ruuxi adigu ma lihid camera waa ka xumahay janis baan ku siin lahaa laakiin no waayahay sagal sidoo kale adiguna ma lihid waa ka xumahay hadda waan kasii baxayaa waxaan idin leeyahay gabooyow aynu isu tashanno Samsam Yusuf Abdullahi FIFA Geboye. Not only Tomal. Not only Tomal. Anigu Tomal baanahay. Laakiin daladeenna guud waa Geboye. Shilibka yaraynahay un dee adigu waa taageerin. Oh, Geboye. FIFA Geboye. Geboye one block. Waxaynu nahay one block baynu nahay. Ha. One block baynu nahay. aynu isu tashanno caqliga ha laga shaqaysiyo caqligu ha shaqeeyo in badan caqligu ha shaqeeyo baad ilaahay aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan fideoga waxaan idinka codsanayaa inaad sheer garaysaan fadlan dhammaantiin inta daawanaysa waxaan cod dheer idinku sheegayaa inaad sheer garaysaan sheer gareeya hala sheer gareeyo iga raalli noqda haddaan idinku qiilay laakiin waxaan idinka ballan qaaday inaan cod dheer idinku sheego sheer hala sheer gareeya barnaamijka ha yulaaf gabooye sax sheer garee dee barnaamijka haddaba waayihi gabooye ma jeceshahay ha sheer garee now hadda sheer dhe okay dhammaantiin hadda okay soo wada qora okay soo wada qora ha okay hala soo wada qoro okay waayahay okay fara badan baan hayaa waayahay ha okay ha
هلا شير قري هذا اوكي انت هاسي كفتن هاي نوغي قاتو وحن الله عوين سوناكسن meel kasta oo aad joogtaan aad iyo aad baan idin salaamaya waa kaftankuna waa inoo furan yahay dhammaantiin waxaad soo wada qorteen okay kaftanku waa inoo furan yahay aad iyo aad baad umahadsantihiin dhammaantiin meel kasta aad joogtaan waxaan leeyahay habeen wanaagsan habeenku idin wacnaado inta ay maalintu ayna waxaan leeyahay maalin wanaagsan inta ay habeen u tahay habeen wanaagsan inta ay subax u tahayna waxaan leeyahay subax wanaagsan meel kasta aad joogtaan waxaan idin rajeynayaa caafimaad iyo cimri dheer ومحيدين محمد حاشي او اذن له حبيب وناسم دمانتين تشاو